baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka oo ku kala qaybsamay aragti ahaan iyadoo wararku ay sheegayaan in mooshinkani ay xildhibaanada qaarkood ay ka soo horjeedaan gudoomiyaha baarlamaanka oo ay doonayaan inuu isxasilo oo xilki laga qaado halka kuwa kalena ay leeyihiin waa in gudoomiyaha baarlamaanka uu joogaa haddaba waa markii ugu horeysay tan iyo intii la dhisay dawladii Carte ilaa hadda oo la arko xukuumadda oo runtii weerar ku qaadaysa baarlamaanka Soomaaliya sababtoo ah arintani waxay ka dhalatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xubno aad u taageersan iyadoo wali ay jirtay markii horena ay jirtay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kal hore ayaga laftirkoodu mooshin ka waday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya hase ahaatee waxaa muuqatay inay isbiirsadeen maxaa imaan kara haddaba maxay salka ku haysaa mooshinkan ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxaa ila jooga oo barnaamijka igala qayb galaya afar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo afkaaro kala duwan aaminsan waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo geeskaas jooga iyo waxaa kaloo ku xiga xildhibaan Jaamac Maxamed Askar waxaa ku xiga xildhibaan Cabdi Cali Dr. xildhibaan Cabdi Cali iyo waliba xildhibaan Cabdixakiin Macallin Axmed Maalin daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta badan waxay nagala socon karaan aaladaha Facebook aaladaha kala duwan ee telefishinka Soomaali Cable sida YouTube-ka Facebook-ka Twitter-ka waxay kaloo nagala socon karaan caalamka shaashadaha kala duwan ee qaaradaha kala duwan ee caalamkana waa nagala socon kartaan cidii doonaysa in ay su'aalo weydiiso khadka telefoonka ayay naga soo wici kartaa meel kasta ee caalamka ka joogaan waan idin soo dhaweynaynaa bal aan ku bilaabo marka hore wixii ka qaltama ararteedana adinkaa sixi doona insha Allah waxaan rabaa marka hore inaan ku bilaabo Cabdullaahi Goodax Barre Cabdullaahi muxuu xildhibaan muxuu salka ku hayaa mooshinkan degdega ah ee sida lama filaanka ah u soo burqaday ama u soo baxay bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka uu horeyso shaqaalaha TV-ga iyo adigaba iyo ummadda Soomaaliyeed daawata TV-gina waa salaamaha meel kasta ay joogaan midda xigto waxaan rabaa laba arrin oo saxitaan inaan sameeyo horta marka uu horeyso mooshinkan wuxuu bilowday bishii October ee sanadkii hore wax soo burqaday hadda ma aha muddo ayaa mataqaanaa xildhibaanadu arrintaas taas wax sax ma aha umaleyma xukuumadda inay wax saameyna xataa hadday damcaan ay ku yeelan karaan taa waa taas haddaan usoo noqdo marka su-aashaada moshinku wuxuu salka ku hayaa xildhibaano gaaraya 107 oo kalsoonida ay ku qabeen gudoomiyahooda ay yiraahdeen kalsoonida waan dhumina marka xildhibaanada inta kale sida xeerosaadku qabo waa inay ku raacaan marka xaajadu waa xaajo noocaasa siyaabaha inta badan loo dhigay oo ah khalkhal siyaasadeed wadanka galay dib baan u noqonaynaa muxuu ahaa shaqadii xukuumadda ayaa istaagayso muxuu ahaa wadamo shisheeye ayaa ku jiro waxaas oo dhan waa iska xirfadda muxuu ahaa siyaasiyiinta hadday yihiin xildhibaanay hadday kuwa kale yihiin mooshinkan waa iska sahlan yahay waa kalsooni la-aan gashay xildhibaanada qaar warsaday inta kale inay ku raacaan way ku raaci doonaan ama way ka diidi doonaan marka masalo weyn oo dhib badan oo wadanka culays ku haysa ma waa xildhibaan Cabdullaahi haye xildhibaan Jaamac Maxamed Askar muxuu salka ku hayaa mooshinka bismillaahir rahmaanir rahiim waa salaamaya shaqaalaha TV-ga iyo ummadda Soomaaliyeedba sida la wada socdo mooshinkan wuxuu bilaabmay muddo imika laga joogo ilaa 6 bilood 7 bilood waxaa bilaabay xildhibaano ka cadhooday guddi hoosaadyo baarlamaanka qaabka loo dhisay iyo urur goboleedada sida IGAD oo kale iyo jaamacadda Carabta xildhibaanadii lagu qoray ka qaday ayaa markii hore bilaabay golaha dhexdiisa ayay ka ololeynayeen
laakiin si hadda waxa muuqata in dawladdu ku biirtay mooshinkii oo iyadu ay dabada ka riixayso oo iyadu maalgelinayso oo iyadu abaabulayso oo iyadu ay rabto in iyadu ay tahay tale maanta talada mooshinka socda mooshinka waxa laga gol leeyahay oo ujeedadiisu tahay waa cudwaan iyo xadgudub lagu qaaday baarlamaanka Soomaaliyeed waxa la rabaa in la curyaamiyo madax banaanida baarlamaanka Soomaaliyeed waxay la soconaa dawladdu inay iyadu gacanta ku hayso garsoorka waxaa dawladdu ka kooban tahay saddex weeye waa sharci dejinta waa fulinta waa garsoorka marka garsoorka maanta inoo dhisani waa garsoorkii xilligii kumeelgaarka la dhisay garsoor ku salaysan maaha xeerka baarlamaanku ansixiyey xeerka adeega garsoorka ma madax banaana garsoorka jira dawladdu markaa waxay rabtaa inay ku dirsato baarlamaankii waa dad raba inay ixtikaar sulda awoodii oo dhan inay meel ku ururiyaan oo sida ay doonaan ka yeelaan ummadda Soomaaliyeed taasay uga daliyeen haya Cabdi Cali Xildhibaan marka aad aan uga xumahay Xildhibaan Jaamac korata loo qaato waxaan aad uga xumahay saaxiibkii Xildhibaan Jaamac anu kuma noqonayo aragti gooda xasaxay aragta sheegtay kuma noqonayo aad waxaan uga xumahay saaxiibkii Jaamac horta asaga qiray anu waxaan kamid ahaa dadkii bilaabay mooshinkan muddada dheer ee aan bilownay mooshinkan iyo xildhibaanada kala duwan ee qaarba wax ka cabanayeen waa laga yaabaa wuxuu sheegay qayb ka cabanaysa inay ku jireen dadkii saxiixay laakiin aniga iyo tiimkii ugu horeeyay oo 15 ugu horeeyay saxiixay aan kamid ahay ujeedada aan ka cabanaynay waxay ahayd shuruucda uu ku tumanayo Maxamed Cismaan Jawaari waxa kamid ahaa marqaatay ka yihiin 43 xildhibaan oo ila fadhida mooshin berbera markii kiiska ay soo baxday imaaraadku inay qabsanayaan dekada berbera ciidamo saldhig ka samaysanayaan xildhibaano baarlamaan kamid ah mooshin keenay waxay yiraahdeen bal arintan aan iska wareysano madana Maxamed Cismaan Jawaari waa qabtay mooshinkii hoos u gashtay waxa ogtahay mooshin 5 maalmood ka badan lama haysan karo haduu yahay mooshinada 10 xildhibaan ay saxiixaan waxa kamid ahaa mooshin laga keenay sida walaalkii Jaamac uu sheegay gudiyada joogtada ah oo xildhibaanadu intay arkeen gudiga joogtada inay noqotay maqaayad Jawaari uu ku shaqeysto oo dadka inta badan ee gudoomiyaasha ka ay yihiin xildhibaano cusub oo aan seminar la siinin oo aan loo sheegin maxaa la baarlamaan waxa uu yahay khibradda kaliya ee baarlamaan ay haystaan ay noqotay codeyntii madaxweynaha ay u codeeyeen iyo ololihii siyaasadeed oo dhaliilaha badan loo yeeli karo oo markii madaxda kala dooranay khibrad intaas dhaafsiisan niman aan lahayn gudoomiyaal gudi joogta laga dhigay Maxamed Cismaan Jawaari waxa uu sahlanaatay inuu marka suur rabo u maareeyo khibradaas la'aanta gudiyada marka waxay keentay in xildhibaano badan ay u arkaan gudiga joogtada inuusan fahmin shaqadiisii ayagana mooshinay ka keeneen mooshinka 5 maalmood ka badan inuu haysto ma ahayn asna Jawaari hoos u galiyay wuxuu kaloo sameeyay waxa kaloo mooshin laga keenay lacago siyaabo kala duwan shaki u galay oo baarlamaanka ahaa oo la yiri $100 oo baarlamaanka laga gooyo lacagaha daryeelka lacago sida ay u baxaan xisaab celintoodii hala keeno ayadana mooshinka markii la keenay hal maalina dood laga furay waxaad la jeedaa maamul xumada Jawaari ayuu ka yimid mooshinkan boqolkiiba 9 aad baad u maasan tahay haye xildhibaan Cabdi Xakiin بسم الله الرحمن الرحيم marka hore mahad celinta waxaan la qabaa xildhibaanada sharafta leh ka qayb galay dadka hawada nagala socda iyo teamka Somali Cable iyo maamulkooda waa mahad celinaya munaasabadan iyo fursadan ay siiyeen waxaan kaloo salaamayaa xildhibaanada saaxiibada iyo ayagana barnaamijka nagala qayb galaya waxaan u maleynayaa horta marka laga fiirinayo mooshinka iyo sidoo ku yimid wax badan kama bedelni Jaamac fikradii xildhibaan Jaamac uu soo jeediyay oo ku saabsanayd waa run xildhibaan Cabdi Cali sidoo doctorka hadda sheegay 15 qof ayay dhaaf weys ama 15 qof oo ugu horeysaan ah yaani muddo intii oo kalaga yaabay in 6 bilood 7 bilood gaarayso ayuu mooshinkan Jawaari jiray oo suuqa yaalay laakiin muddadaas muxuu u shaqeyn waayay wuxuu waayay sanadkii rasmiga ah iyo garabkii u arkay inuu mooshin sax yahay laano waxaan u arkaynay laftirkeena ama xildhibaanadu u arkay mooshinkan inuu ku saleysnaa marka uu qadaaya dhacay iyo waxyaabo fardi ah qof si gaar ah u taabanayo way dhici kartaa in la dulmiyo way dhici kartaa in garleeyo way dhici kartaa in la gardanaya laakiin wax qof ashxaas taabanaya in si guud baarlamaanka u taabanaynin
ajenda ku salaysan ayuu ahaa ajendihii markii horeeto abuuray inuu mooshinka jawaari yimaado laakiin zakhamkan xoogga leh iyo halka habeena lagu wada yaacay ee wasiiradii dawladdu ay saxiixeen waxaa keentay dawladda oo ajendaheeda ku darsatay inay jawaari meesha ka wareejiso jawaari in meesha laga wareejiyana dee sidaas xildhibaan jaamac uu sheegayo waxaan u aragnaa ama aan xildhibaano badan ee Soomaaliyeed ay u arkaan ee golaha shacabka ka tirsan inay dee tahay fursad la abuurayo baarlamaanka golaha shacabka inuu noqdo jiis inuu noqdo shaqooyinkiisa waa absolutely dee xukuumad oo 45 xubnood ilaa 40 xubnood dad gaaraya ay ku jiraan oo mooshinka ayagu darafka ah oo saxiixeen 37 wasiir baa saxiixdaan u maleynaya xukuumad wasiiradeedii xildhibaanada ahaa dhammaantood ay mooshinka sidaa u saxiixeen saameyn kuma lihin oo xukuumaddu ma oga xukuumadda shirarkeedu ka dhacay 24 saac taliyaashii ciidamada iyo maxaa la yiraahdaa qadihii iyo hay-adihii madaxa banaanaaya dawladda oo dhan ayaa culays lagu saaraya inay xildhibaanadii la contact gareeyaan oo xildhibaanadii keenaan oo jagooyinkooda lagu hadadaya safaaradihii dibadda lagu handadaya dhammaanay saameyn ku leedahay dawladii qaybaheedu kala gudsanaayo dhan xukuumaday dhaaftay hay-adihii madaxa banaanaya gaartay marka wax ay xukuumaddu si toos u karinayso si toos uga shaqeynayso way ajenday ka dhigatay shaqadii qaranka oo dhan ay ilowday marka mooshinka jawaari ka shaqeyso aad baad u mahadsan tahay xildhibaan cabdi cali xaqiiqadu waxa ay tahay ama sida muuqata in xukuumadda oo 40 iyo dhowr ka kooban haddaan la khaldanayn in ay si toos ah shirarka looga soo horjeedo gudoomiyaha baarlamaanka ay ka qayb galaan cadaadiskanina dhowr shir oo aan arkay oo aan hotelkan aswa lagu qabtay meelo badan waxaan ku arkay xitaa wasiiradii oo dhan oo kala maqnayn oo meesha fadhiya maxaad u tidaysaa marka xukuumaddu inay doonayso inay jawaari ka takhalusaan shan iyo toban markaan lahaa macnaheeda 4 bilood 15 ma hayn waxaa xaqiijin doona walaalkay mooshinka waxba kama oga jawaarin waxba kama ogeyn dad badanna waxba kama ogeyn way qaabka uu ku socday mooshinka waxay ahayd xildhibaanada kaliya saxiixay inay ogaan karayaan cid saxiixday xataa cid ogeyd ma lahan ilaa mooshinkan uu ka soo baxay waxaana ku cadeynayaa 75 xildhibaan inay saxiixeen fasax intaan la aadin ka hor waxayna ku cadaan doontaa maalinka mooshinka loo qaybiyo baarlamaanka waayo qof walba taariikhdu saxiixay waa ku hor qoran tahay arintu marka cabdi xakiin uu leeyahay waxaan aad uga xumahay walaalkay wax uusan ogeyn inuu ka hadlaayo anigu mooshinka gacanteedu ku jiro 50 xildhibaan ka badan waxaan ogahay waqtiga ay saxiixeen iyo taariikhda qof walba uu saxiixay marka 75 in ka badan haday xildhibaano yihiin oo wasiirna laga yaabay waagaas hal ka badan inuusan ku jirin marka in la dhaho wasiiraha xildhigeedkan maxaa la yiraahdaa intay soo galeen inqilaab ku sameeyay qof walba way qaran tahay macnaha waxaan siinayaa Cabdullaahi Goda qof walba waxay xoogiisa marka la eego iyo saameynta uu leeyahay iyo in wasiiradii laftirkoodii xildhibaanadoodii ay la contact gareynayaan oo ay la hadlayaan miyaan ahayn wax muuqda oo xukuumaddu ay macnaha awood dhaqaale iyo awood siyaasadeed iyo awood amni intaba ay gelinayso sidii mashruucan u hirgeli lahaa hay'adooda waa macsan tahay horta sharciga xeer hoosaadka noo yaalo markii mooshin baarlamaanka la geeyo mooshinkaas cidda markan qofka hubo oo hubaal ahaan hubo waa gudoomiye muday iyo hadduu la sheergareeyay la wadaagay gudoomiye ku-xigeenka labaad inta loo ogol yahay inay ogaadaan inta saxiixday inay ogaadaan horta waa labadaas qof waxaa intaa dheer marka oo la rabaa in ummadda Soomaaliyeed laga qanciyo loo sheego xukuumaddii wasiiradii ku jiray xildhibaanada ah ogow hadda waa xildhibaano ma wasiiro inay wax saxiixi karaan xildhibaanku waa wasiir marka xildhibaankan wasiirka ah wuxuu xaq u leeyahay inuu saxiixo hadduu u garto gudoomiyihiisa inuu saxiix prime minister uma sheegi karo ha saxiixin muxuu ahaa uma sheegi karo marnaba uma sheegi karo marka wararka marka yani sida xogta hoose aan ku helayno markii la xildhibaanana la iswaraysto waxaan helayno waa xildhibaanada saxiixa waa lagu qiyaasaa oo wasiirada ah
waxaa lagu qiyaasaa 17 15 meelaha inay yihiin golaha wasiirada xildhibaanada ku jirana waxaa weeye 40 iyo xogo marka horta wasiiraa saxiixay oo waxaan buustagareeyay oo cirka marsiin sidii xataa xukuumadii laftirkeeda shaqadii laga rabay in ay qabato oo ay howlaha ay qabatay in ay culeyskii arrintan in ay saareen sooma muuqato xildhibaan waa shaqaysaa wasaaraduhu waa shaqeeyaan wasaaradda shaqada joojiye miyaa jiro ma guddoomiye barlamaan oo la rabay in la bedelo kalsooni laga noqonaa xukuumadoo dhan iyo wasiirada iyo wasaaraduhu u istaagayaan taas caqli maaha qof caqli wax loo sheegana ma aha waxa weeye waxa dadka lagu maran habaabina waxa weeye xildhibaanada wasiirada la sheegayo waa xildhibaano hadday 40 xogoo ahaayeen waxa saxiixa laga hadlaa waa 15 oo la sheegayo shirarka xildhibaanadu iskugu yimaadaan inay yimaadaan xaq u leeyahay maxaa yeelay waa khusaysaa waa xildhibaan dastuurkeenna ogol in xildhibaanku wasiirna noqdo marka taas cilad maaha waxa runtii meesha yaallo oo in laga qanca loo baahan yahay horta koo ummadda Soomaaliya in laga qanciyo waxa waaye jagadani jago yani amniga guud ee waddanka khalkhal gelinaysa marka laga hadlayo ma aha waa afhayeenka baarlamaanka waxa laga hadlayo wax weyn ma aha dad siyaasiyiina cirka u qaadayo oo xeynaayo xildhibaanna yiraahdeen mooshinkay ka dhex muuqataa muxuu ahaa maamulkaaga ma aanan jeclaysan dastuurka sida waagaysa ma aanan jeclaysan waxa laga hadlayo waxan marka in la siyaasadeeyo ma aha jaamac sida muuqata tan iyo markii guddoomiye Jawaari oo xilka soo hayay caqabado badan xanaaq badan carab badan oo xildhibaanada ka dhex jirta ayaa jiray sida in inta badan la weeciyo waxyaabaha dastuuriga ah ee la doonayo in laga hadlo sida xilligii Xasan Sheekh ilaa iyo hadda miyaanay muuqanin hagardaamo iyo hagaldaacin ka muuqatay guddoomiyaha oo ilaa iyo hadda baarlamaanku shuruuc badan inuu fuliyo u rabay aanu filin soo caradu kama dhalo walaal dooda sidaad u dhigayso anigu ma arko waxa weeye doodu ma aha Jawaari anagu Jawaari ka shakhsi ahaan ma difaacayno Jawaari waa shakhsi ceebana yeelan kara wanaag badanna yeelan kara marka ka shakhsi ahaan anagu Jawaari ma difaacayno waxaan difaacaynaa anagu karaamada mu'assasada aanu ka tirsanay baarlamaanka oo ah hay'adda kaliya ummadda Soomaaliyeed waxa la wada waxa weeye mu'assasada ay Soomaali wada leedahay ay iska wada dhaxarkaysaa ee ugu sarreysay dhashay mu'assasaadka kale dawladda waa baarlamaanka Soomaaliyeed waa golaha shacabka iyo aqalka sare maanta waxaa muuqata Jawaari waa dariiq la sii marayo Jawaari looma jeedo waxa arinta loo hamiyo digleeyahay ee socota waxa weeye in dad raba inay power ko dhan qabsadaan meel isugu keenaan inay dalkan ku amar ku taagleeyaan waxa muuqata maanta in kaligii talisnimo cusub dalka dib loogu celinayo waxa muuqata maanta Soomaaliya halkay taagneyd 1999kii in dib loogu celinayo annagu waxaan aragno aynu diidanay inuu ka soo jeednaa waata waxaan rabnaa mu'assasad baarlamaaniya oo madax bannaan oo karaam xildhibaanadu mayaysan haddii ay u arkaan guddoomiyaha baarlamaanku in uu ka leexanayo shuruucdii waxyaabo badan inuu ku qaldan yahay miyaysan xildhibaanadu xaq u lahayn in ay mooshin ka keenaan arrinta anigu mooshinka waanu aqbalnay mana diidayna waana soo dhawaynaynaa qofka xildhibaanka xaq buu leeyahay moshinku waa agabka uu haysto qofka xildhibaanka ahi ee uu muxuu ahaa ku shaqayn karo marka mooshin haddii laga keeno Jawaari ka dhana waa soo dhawaynaynaa welcome baa leenahay bishardi laakiinse waa inaynu ixtiraamno xayndaabka sharciga ah ee arrintani ay tahay inaynu qaadno waxaanu dhegeyso dabcan ha maxay tahay tusaalahan waa in xeeroosaadka golaha loo hogaansama waa in dastuurka qaranka loo hogaansama maanta waxaa socota oo la maleegaya in laga tallaabsado dastuurkii qaranka in laga tallaabsado xeeroosaadkii in shirar la abaabulo si qayr sharciya la rabo in guddoomiyaha looga qaado muxuu ahaa waa taa waxaan diidanaa anagu Cabdi Cali haye Xasan Cabdi waxaan ku sheegay walaalkii wuxuu ka shanqariyay dastuur wuxuu ka ansaqariyay xeer hoosaad walaalkii intaba waxa kama u fahmin waana garanayaa waa xildhibaan cusub waxaan aad ugu faraxsanahay
in waxa uu jawaari ku tuntay oo haddaba aan isku haysano oon mooshinka uga keennay oo haddana markhaati uu uga yahay in uu ku tuntay qodobka 75 xeeroosaadka inuu ku tuntay qodobka 9 xeeroosaadka inuu ku tuntay qodobka 8 ee xeeroosaadka hal xabaha sheego oo uu leeyahay waa ku tumateen uu leeyahay walaalkay halkaan ha ka sheego hal qodob oo kamid ah dastuurkii xeeroosaadka ha sheego waa ku soo dhawow jaamac ma yakaadi marka raala jaamac haye qodobada aad sheegtay waxaan u maleynaa meeshan horta waxa yaalla oo na kala hagayahay waa dastuurka xeer hoosaadka dastuurka ku xiraya horta mid waan ka cudur daaranayaayo inaan si toosa la isu abaarin oo qof target karaynin way wanaagsan xildhibaanada la wadahay waxna kala celiyaa sharciga tan aan rabay inaan xuso waxa weeyaan hadda dictatorka wuxuu ka mid yahay dadka mooshinkan ugu horeeyo soo bilaabay mooshinka marka la fiiriyo sida uu ku soo bilaabay mooshinka laga keenay jawaari waan hayaa yani waxaan haynaa qodobadii lagu soo eedeeyay meel horta mulaaxaday leedahay ugu horeyso waxa weeyaan yaa mooshinkan markii la keenay hadda xildhibaan Cabdullaahi wuxuu yiri mooshinka mudday baa loo dhiibay inagu waxaan belief kareysanahay oo sida sharciga hadii la raacayo ay tahay jawaari isaga gudoomiyaha golaha shacabka ah ilaa mooshinkiisa inta la accept gareeyo oo si sax loo aqbalo oo guddiga joogtada ah oo ajandaha ku daro oo loo garto inuu yahay mooshin markaas ayaa shirka looga hadlaya jawaari arrimihiisu jawaari gudoonkiisa ka wareegaya laakiin golaha shacabka iisug agtiyo inaad markaaga hadashaan rajeynaya insha Allah markaaga inaad hadashaan rajeynaya doctor marka inta ka horeysa arinta horta jawaariya gudoomiyaha golaha shacabka jawaari waxa uu ka wareegaya gudoonka waa marka arintiisa laga hadlayo tan laga hadlayo ee qaanuunka macnihiisa ama dastuurka macnihiisa ama xeer hoosaadka macnaha sida loo yeelayana waxaa laga fiirinayaa interestiga oo gudoonka maadaama isaga magaciisa laga hadlayo saameynta meesha ay kala leedahay la kala wareejinaya bis marka maadaama inta la kala wareejinaya ayaa shirka maalinta arintiisa laga hadlayay taa inuu ka wareego laakiin gudoomiyihii golaha shacabka jawaari isaga taa waa mid aan rabay inaan ka wada dhafo midda labaad mooshinka laga keenay jawaari qodobada lagu soo eedeeyay qodobo suurtagal ah oo in la keeno xataa ay macquul tahay maxaween qodobka markaad wax ku soo eedeynayso waa inaad wax cad uu yahay oo wax cadna cuskan yahay waa sida ku qoran bada xoroosaadkeena ku qoran waa inuu wax cad oo cuskan yahay ay jirtaa waxa kamid ah qodobada hadda lagu soo eedeeyo kan ugu horeeya oo muujinaya dastuurka inuu support gareyn diiday ama uu saacidi waayay sidii dastuur wadanka loogu sameyn lahaa inuu taageerin waxaan ognahay in guddiga doorashada dastuurka la sameeyay waxaan ognahay in budget loo mariyay xukuumadda 3 milyan loogu daray sidii dastuurkaasi looga dhigi lahaa oo gacanta Soomaalida loogu soo celin lahaa waxaan ognahay in guddiga financiga ama maaliyadda anigu aan ka mid ahay inuu soo bixiyay gudoonka inuu nagala shaqeynayay gudoomiyaha baarlamaanka in la geeyay in loo ansixiyay budgetkii gudiyadu siday u shaqeynayeen ee labada guddi ee hawshan aan dhamaysto labada guddi ee hawshan ka shaqeynaysay ee labada aqal ka kala socota inuu support gareynayay hadda siday u shaqeyn lahaayeen iyo sidii shaqadooda loo hagaajin lahaa inuu dadka koobaada u saxayo shaqadaas gacanta ku hayay uu yahay jawaarinada qofka dastuurka qoraya asaga maahane haykalki iyo wuxuu sameynaya iyo shaqada cidii qaban lahayd qodobada kale ku xigay ee lagu soo wada eedeeyay waa qodobo aynan ka muuqanin wax macna ah waa inaad sheegi kartaa waxaan caaga la yiraahdaa laakiin aadan hawo cid la tilmaamay oo qodob la soo qaban karo malaha qodobada lagu soo eedeeyay haya Abdullah doodena uga faa'iideyno shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed oo fiirsanayso halkan uma fadhino inaan qodob intaan u qaadano wixii lagu soo eedeeyay gudoomiye jawaari aan halkan uga doodno maxaa yeelay dastuurka iyo xeer hoosaadku waxay leeyihiin 10 beri laga doodo 10 maalmood laga doodo xildhibaanadii mooshinka soo qoray iyo xildhibaanada kale laga yaabo inay ku waafaqsan yihiin dood dheer ka yeelan doonaan xildhibaano kalena way difaaci doonaan sida hadda walaalkay mataqaanaa xildhibaan xakiin uu difaacay ayay u difaaci doonaan marka yaanan hadda waqti yar oo hal saac oo aan ummadda Soomaaliyeed ra'yiina aan rabno yaanan waqti ku dhumin intaas laakiin waxa lagu soo eedeeyay waxa hadda ayuu cilada ka keenay waxa lagu soo eedeeyay hadaan anna iraado way fiicanta asna ma xuntahay uu yiraahdo oo maanta oo dhan aan saa u wadno cidna ka faa'iidmayso waa waxa dhan oo eeduba tahay waa eedeyn cidda iskala doodeeda iyo cidda iskale in marka dambe loo codeynayo marka taas baarlamaanka ay u taalaa dood fiican dhici doonto
runtii anigu waa uga naxayaa jawaari nin odaya oo xilkasta oo muddo dheer soo shaqeeya wey shalay waxaa meel iskugu yimid xildhibaano 200 cagaa gelina 190 iyo intaa soo maaha xildhibaanadaas oo idil markay microfonka tagaan oo wax runa iyo waxa beena iyo wax saxa iyo ay hadlaan markay dood barlamaan markay dhacayso waa la hadlaaya ee laga hadlo jawaari hadda haddii adiga la weydiiyo jawaari baa taqaanaa yani odagaas sharafta leh muddada dheer soo shaqeeyey mataqana xilkaska ah yani sharci yaqaanka ah yani mataqana veteranka ninkaasaa taqaana markii la doodo qof kalaad baranaysa runtii ani aadan uga xumaan doonaa in doodaas ay dhacdo laakiin hadiiba ay 100 iyo 200 ku dhawaad yimaadeen gudoomiyaha baarlamaanku mar uu shir jaraa'id qabto wuxuu yiri anigu raalli waxaan ka ahay in haddaba la guda galo mooshinkiyo la bilaabo oo macnaha diyaaran waa ka yiri maxaa dib loogu dhigdhigayaa yaa dib u dhigay hadda maxaa hortaagan in hawsha la galo cid dib u dhigtay ma jirto gudoomiye ku-xigeenka koowaad ayay gacanta ugu jirtaa shaqadu isagaana iclaaminaya maalmahan soo socoto marka macnaheedu ma aha gudoomiye jawaari ay yiri waa in la dudaayo barlamaanka la tagaayo ho la yiraahda procedure aan leenahay nidaam aan leenahay dadaan noo haayo taas gudoomiye jawaari gudoomiye muddo la weydiinayo waxa la sugaayo asaa yaqaano isagaa sheegi doono waxaan laakiin ku kalsoonahay in sanduuqa meesha la dhigi doono laakiin qof ahaan runtii ninkaa odaga saaxiibkee inuusan fagaarahaas tegina u fiican siyaasad kama mara intaan rabaa inaan raacsado kalsoonidaad ku qabtaa miya in haddii meesha la tago guushii aad gaaraysaan aniga kama hadlaya guula la gaaraya kan laakiin in dhib ka dhacayo digaysaa marka dabcan waa intaan kuu sheegayba mogta intaan kuu sheegay gudoomiye mudday waxaa la leeyahay uu kala hadlay oo marna inta mooshinkii markii la keeno ayuu yidhi waa burburay mar dambana shir jaraa'id buu qabtay ma aaminsan tahay in gudoomiye mudday markii loo keeno uu isagu macnaha dadka hortooda ama xildhibaanada hortooda uu sidaa ka yiri ma aaminsan tahay soomaada joogin inuu saa yiri ma aaminsan tahay gudoomiye mudday guddiga joogtadan ka mid ahay waana fadhiyey markuu saa yiri runtii waana la yaabay maxaa wax lala yaabay ahayd inuu yiraahdo waa burburay runtii asiga umaba taalaba xataa hadduu burburaayo waa ifan soma waxaan kuu sheegayaa qodob xeer hoosaadaa jira xasan cabdi qodob xeer hoosaada firi qodob xeer hoosaada qodobka 9aad ee xeer hoosaadka qodobka 9aad ee xeer hoosaadka wuxuu leeyahay in lagu horfuro goodax iyo nin kale iyo meel ay joogaan yaaba xaaraan aba mooshinka aniga xildhibaanadii lahaaba goodax lagu horfuraa ba xaaraan aba intii jooga uu kamid yahay marka waxaan rabaa su-aasha waa su-aal fiican gudoomiye jawaari inuu yiraahdo mooshinkii waa burburay oo meesha ka yiraahdo runtii nasiib darre ahayd mudday baa yiri Soomaa mudday ma dhihin mudday gudoomiye jawaari wax asiga khuseeyo oo mooshin khuseeyo oo laga hadlayo inuu resultgiisa sheego wuu ku haldanaa aniga aragtidayda maalintii dambe markuu uu ka noqdayna uu yiri wuxuu waa waafaqsan oo ma burburinna runtii tasaxda taasay ahayd hadda wuuna arkay ninkuna waa araga wuu arkay inuusan meel laga aadaay jirin marka inuu isbedelo yiraahdo wixii saxda waa sidaan maxaa ku jawaab arrinta aan ka hadlaynana mudday baa ahayd mudday asagu ma dhihin miya asagu waan fadhiyey maya muxuu ka laabtay mudday ana waxaan ka hadlaynaa jawaari waxa ka laabtay jawaari waxa yiri waxaan maya hadda waxaan rabnaa in la ogaado gudoomiye mudday iyadoo la fadhiyo ma yiri mooshinkii 91 xildhibaan way waa uu burburay ma yiri microfonka iska dhaaf laakiin adiga hortiina ma ka yiri anaga horteena kama dhihin ma uusan dhihin waa fadhiya anaga fadhiya maalinta ma dhihin mudday mooshinaa burburay ma uusan adiga hadda joogin ninkii joogin uu leeyahay ma dhihin barbugaado miyaa marka way haya aan siina jaamac bismillaahir rahmaanir rahiim arrintan mooshinka wuu jabay iyo muu jabin doodeen inay ku salaysnaata maaha mooshinkii annaga aqbalsan inuu socdo
jawaari baa aqbalay u tanaasulay ummadda Soomaaliyeed waa wax hadda yaallo xaqiiqo ah waxa habboon in laga doodo mooshinkani qaabkeebu muxuu sidoo dhacaya annagu waxaanu aaminsanahay mooshinkan inuu maro qaabkii sharciga loogu talagalay waxaanu aaminsanahay xildhibaanada walaalo ah oo aragti kala gedisan aaminsan inay goobta isugu tagaan xukuumadda baarlamaanka inkastoo baarlamaanka maanta yahay meel la qabsaday oo xukuumaddu qabsatay oo ciidankii laga qaaday oo aan loo la hadidayo xildhibaanadii tusaalahaan aan dawladda la afkaarta ahayn telefoonada ku soo dhacaya villa Soomaaliya looga soo hanjabaya waxa jira security-ga qofka xildhibaanka ah maanta halis ku jira waxaanu doonaynaa in la abuuro lahayd aniga dad qof ila jooga waan ku sheegi karaa haddii loo baahdo maya waa la ogyahay laakiin adiga lagu hanjabin aniga leema hanjabin laakiinse shalay anigoo xildhibaan la jooga waliba dumara in laga soo wacay villa Soomaaliya iyadoo lagu haysto waraysi ay siisay mid kamid ah radioska magaalada Muqdisho ka baxa marka walaal anigu ciidankii ilaalinayay ee loo tababaray ee booliska ahaa ee baarlamaanka weligii ilaalinayay ayaa habeen madow laga qaaday ciidanka wala ciidanka baarlamaanka jooga ciidanka baarlamaanka jooga waa boolis waan ciidamada Amazon Amazon kaliya bedeli karo oo inta ayaga laga qaado كو عصب سلمة كده ولا له حوي مشكلة ما جواري باللودي ده برلمانك معد باللودي تاني حتى ثاني مشكلة عيدا كالصوماليات ما أنا بوليس كالصوماليات وسكيمت وبوليس قرن كالصوماليات وأديجية مشكلة دو حوي نينك سياسي جاه أمد سياسي جارية كو أديجية بوليس كأمد الصوماليات أمد الصوماليات أديجي لها محا بقولي لا تنكي عسكري دجنا حرمت برلمانك إلى لينه لوجا قاعد هبين مدو اللي جسوا بدي كوكله لبعتن بقى اللي جسوا عليه لبعتن قريه اللي قاعد جاي لبعتن قريه اللي قاعد جاي بدي اللي جسوا عليه تاسو عمل وعمل تاسي وحن كدريا وحن ربنا جوب أمنيجا قفك حلبان كاهي أي سجن تاي جوب عن الفوضى كدعي كرين جوب عن لا ليش كدعي كرين جوب ومدة الصوماليين أي كتاهي جوب شو كتاهي وبشر عالم جوب شو كتاهي أو صناديق عضلة ديجو هدي تواري وهلوة هي مركع عدك أو أن آمن سنة هي تواري ونقلبية البرلمان كمان تهيستو حرطة وهيستو وحن آمن سنة هي هدي كل شيء ستنا داقة داسو كبه يعد جور سكة ساري سامنا هدي وهلا توارينا سندول لك تهي إني أقبلان صاحب بدايو إنه هي تواري قدوميها برلمان كسو كلها شعب كصومالي لكن المشكلة إنه وحربا عبد حكيم عدك مشكي ما كقبتين هدي برلمان كان لجو قبته ولا لو ميل هيستسهل لجو قبنا إلا مركب مشكي ما كقبتين لكن محاكمة إن بقول يلا بعتنا سكري وبرلمان كيلا ليسي والله طبعا برئيس البرلمان هو شقين العين وبرقة وبرلمان مدرس وشقين حنونا أرد عيد كبوليس كتحدي ساقح كان عصمة أيه مكاسات تدخل أنت البوليس كل لبس كبوليس كحرم قاع بوليس كسول حقرحين عيدا لبوبيي والله دياريين وبرلمان كشقين ومجلس اللي يقانو مثل كلا عيدا كهبدور كأمني برلمان أنا جو حاجة تيم نوقع في السنة جل برلمان كهبدور abdowrayaasha qaabilsan ciidanka amniga xildhibaanada ayadoo la tansiiqin iyagoo xababka ogeyn ayaa ciidanka baarlamaanka la qaaday oo ciidanka lagu soo bedelay ciidankan aad ku soo bedeshay oo la iyo dawlad xukuumadda ay dhinac uga jirto oo ay dhinac ka tahay wixii socday marka la isku daro waxay muujinaysaa niyad xumay muujinaysaa ma muujinayso boolis caadi oo normal loo bedelay waxay muujinaysaa dad dan leh oo doonayaan meeshan inay danka fushtaan marka tan kaliya oo aan raba hadda xildhibaan Cabdullaahi wuxuu dhahay shalay qada lagu sameeyay whatever 120 soo xaadirto 90 soo xaadirto 200 hadii numberka 197 uu jiro oo jawaari ka codeynay oo xildhibaanada walaalay hadda sidii sheegayaan la hayo uma baahna in taliyayaasha ciidamada iyo maxaa la yiraahdaa hay'adaha dawladda ka shaqeeya la wareeriyo oo xildhibaanada iyaga qoorta la isu galiyay oo laga shaqeeyo hawl kale oo lacag la isticmaalo uma baahna waxay rabtaa oo kaliya in maalin loo qabto baarlamaanka shaqadiisa guddiga joogtada ah shaqada meesha uu ka leeyahay waxa weeyaan Abdiweli Muuday kaliya ma aha guddiga xigeenka ma ixtiraam shidid waxa weeyaan guddiga joogtada uu u yahay guddoomiyaha isaga kamid ah guddiga joogtada iyaga soo xadeeyay ajandaha iyaga soo gudbiya oo baarlamaanka
marka de waa inuu soo maraa waa inay soo ajendeeyaan waa inay maalin usoo yeelaan dawladda xilliga dhacaysa waa inay soo sheegaan ajendaha waa inay noo soo gudbiyaan markaas marka dee halkaasay ka khusaysa marka waxay u baahan tahay guddiga joogtada ah innaga waxaan diyaar u nahay inuu guddoomiye cabdiweli mooday shirka guddoomiyo waxaan diyaar u nahay inay dooda baarlamaankii ka dhacdo oo golihii shacabka xaruntiisa ay ka dhacdo laakiin waa in ciidankii golaha shacabka ka shaqeynaya lasoo celiyaa doodana waa in si nadiif inuu dhacdo loo ogolaadaa meelahan dastuurkii la wareeriyey oo maxaa la yidhahda xeer hoosaadkii lagu wareegayo oo 10 shir loo qabanayo hadba maaragtay gacan taag ma ka dhigi karnaa iyo dastuur 220 cod oo labada aqal ah dastuurkan waayahay cabdi cali arrinta ugu muhiimsan oo hadda laga hadlayo waxay tahay marka saaxiibadan goobta hay keeneen waxba gabanin maadaama la cabdi cali isugu kaana keen waayahay ciidankan hadda meesha xukuumadda ku wareejisay ee la geeyey shaki baa laga muujinaya waxaanan maqlayaa inaan xataa kalsooni lagu qabin in golihii baarlamaanka hadda la isticmaalo meelo kale oo international communitygu joogaan hala geeyo ayaa la leeyahay haddii aqlabiyadaasi sida uu sheegay cabdixakiin la haysto maxaa hortaagan in arrimahaas la sameeyo midaan kuu sheegaya xasan cadde muddana waa soo joogtay dalkan ilaa cartaan isla joogni anuu si fiicanaa u xasuustaa iyo baarlamaankan boolisaa ilaaliya securitygana taliyaha booliska iyo dalkan u qaabilsan amniga gudaha iyo wasiiradiisa hadda wasiire xataa ma soo gelin rotation waxa la dhaho ciidanku leeyahay sidiisaba amison ciidamada noo jooga 5 baabuur iyo waxbaa jooga waaba dalkayba ka baxaanba waxaa laga yaabaa kuwii amison jooga rotationkooda inuu yimid in qolo cusub la keeno ayagana maalin ku xigta airportka ay ka duulaan airportka ka duulaan waxaa ku xiga booliska Soomaalida laftirkiisa booliska Soomaaliya laftirkiisa anigu wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha wasiirka ahaan jiray tababaraa loo diraa booliska waxaa dhici karta booliskii hadda meesha joogay qayb ka mid ah waa imaanaysaa waxaa ku soo beegaya fiiri rotationka jadwal ku qoran yahay timetable ku qoran yahay fiiri timetable ku qoran yahay ma loo bedelin baa taliyaha booliska waa dhageysanay habeenkii iyo wasiir act maxalla wasiir dawlaha amniga markii ay ka hadlaayeen qayb ka mid ah la bedelay waxaa dhici karta tababar in loo waday ani hadda ma sheegi karo sida ninkaan oo kale 100% kuma dhaaran karo in jawaari in lagu dhibaateeyo in loo keen nimankan codna ma bixiyaan baarlamaanka gudihiisana ma soo galaan booliska noogu dhow ee baarlamaanka jooga waa kan oo meesha ugu horeysa magacaan saxiixayno iyo mashiinka dhahayo inta badan shaqaalaha iyay un controlane xataa xildhibaanada aan wax badan fiirin waa ogyahay wariyuhu waa yimaadaa meesha niman shaqo kule iyo meel laga codeynayo iyo niman inay xildhibaan la hadlaan looga baqaayo midna ma aha moogtahay haddii adigu hooskaaga ka cararto ani waxaan u arkaa waxaa la isku dayayaa in eedayn aan jirin annaga xildhibaanaan nahay ani aadaan uga xumahay walaalkay midda uu leeyahay qolaa madaxtooyinta soo wacday gabar xildhibaanada weerartay anaa diyaar waa mooshinaan ka qoraynaa keen ciddii tiri waxaan ka qaadan talaabaan ka qaadan anaa isku mowqif xasaanada oo xildhibaanka inaan la dhibaataynin annagaa raali aan ka noqonayn xildhibaan cabdullaahi xildhibaan inaan warka qaybsano oo aanan meel ku dhegin arrintan booliiska meesha laga bedelay iyo xiisadan siyaasadeed iyo warka badan oo ka yimid runtii inta badan wuxuu ka yimid muxuu ahaa xildhibaanada aan isleeyahay waa yar yihiin marka loo fiiriyo baarlamaanka intiisa kale iyagu aan guddoomiye jawaari dan badan ka lahayn laakiin u adeegsanayo in wadanku qasmo muxuu u adeegsanayo mataqaanaa waana naqaanaa source-kooda iyo waxaas waxay yihiin arrinta booliiska meeshan ciddana waardiyeysa waa booliiska Soomaaliya 4 sano hore baarlamaanka ku jiray iyo kanoo 1 sano weligeed ma maqlin booliiska training loo diray oo la tababarayo sida baarlamaanka si gaar u waardiyeen booliiskan waa tababaran yahay waa booliiska Soomaaliyeed way yimaadaan aag baa la siiyaa halkan aad istaagnaanaysaa kanaad yeelaysa kaasa la yeelaysa haddii marka taliskii booliiska ay garteen in la bedelo sababtu waxay doontaa noqoto su-aasha waxaad weydiisay maxaa isku soo abaariyey yani bedelkan iyo xiisadan waxaa laga yaabaaba in istaraatiijiyada booliiska ay tahay war xildhibaanadii dood adag ayaa u furmayso inay mataqaanaa doodooda ay hiitad noqotaa laga yaaba annaga Soomaaliya waa is wada naqaana
askartanna waardiyeyso iyagoo buliisa haddana waa la wada keenkeenay laba xildhibaanoo sidaan haddaan cilaaqtamayn intay xag ku cilaaqtamaan askartiina waardiyeynaysa kalsooni baan u baahannahay laftirkeeda yacni marka runta loo hadlo marka in ciidan bermedka la keeno oo ka adag kuwaan ciidan ahaan marka la yidhaahdo ka tababar badan inta aan haysan lahayn 100 askari oo mid baxro laga keenay xildhibaan cabdullaahi hadiiba hadda shaki laga keenay oo xildhibaanadii qaarkood iyo gudoomiye jawaari uu leeyahay baarlamaanka waa la qabsaday oo taa ay taagan tahay doodtiina su'aal ku weydiinaa markay sidaas leeyihiin maxay anaba hadda shaki galayba askartan hore u joogtay iyo ayaga maxaa ka dhaxeeya maxay ugu dhagaayaan askartan ilaa askari Soomaaliyeed waa kala keenay kii horena waa ku kale waa khatar baan ku jirnaaba hadiiba ay su'aasha jaamaca askarta ku dhagan yihiin oo leeyihiin askarigii la bedelaan wax ku ogaa yani taasa waxa u baahan ba in la baaro jaamaca soo gaabay hadda hadalkaas arrinta in la qabsaday xarunta baarlamaanka waa arrin cad guddida difaaca ee baarlamaanka iyo guddida amniga arrimaha gudaha ayaa tagtay wariyaal baa la socday xarunta baarlamaanka ay soo booqdeen riboodkii warbixinta ay soo gudbiyeen waxa weeye in ciidankii tababarnaa ee muddada dheer loo tababaray boolis inay ilaaliyaan baarlamaanka Soomaaliyeed in meeshii laga qaaday in ciidan kale lagu bedelay in ciidanka taliye cusub xataa uu wato in ciidamadii hore markii ay buuq dawladdu maqashay in arrimaha laga hadlay in 20 soo celisay 20 kiina hubka ay ka dhigtoon maanta aanay qoriyaysan oo dib ugu celisay meesha taas marka inay tahay goob la haysto dood ma doori inaan ka doodo arrin kale aan uga gudbaya walaal arrinta in baarlamaanka hadda waan ku daraya guddida amniga ayaa tagtay iyo arrimaha gudaha guddiga difaaca tagtay ee baarlamaanka warbixintay soo gudbiyeen ee idaacadaha ay siiyeen baa tilmaamaysa in 20 askari oo hubkii laga dhigay dib loogu soo celiyay 120 kiina laga qaaday maanta xarunta baarlamaanku ay tahay goob la haysto oo guddiyadaas waxay tageen meesha inta aan mooshin ba la keenay maalin dhaweyd bay tageen security-ga caadiga ayna ka shaqeeyaan waxaan rabaa xildhibaan cabdi cali maya xildhibaan cabdi cali ma jaamac sugade cabdi cali waxaan rabaa hadiiba ay sidaan tahay laguna kalsooneen baarlamaanka in lagu qabto ilaan beesha caalamkan inay joogtaa la rabaa oo macnaha inta badan lagu kalsoon yahay marka meel kale in lagu qabto ma dhici kartaa mar haddii guddoomiyihii iyo xildhibaanadii la socday ay leeyihiin meeshaan baarlamaankan kalsooni kuma qabno miyaho aniga ma qabo in meel kale la geeyo waxaa ka horeysa haddii shaki la qabo hadda saaxiibaday waxay sheegeen guddi amniyaa tegey guddi difaaca tegey aniga waa rabaa inay warbixintooda keenaan qasab maaha maalinka ugu horreeya hadda baarlamaanka la furo in doodii jawaari bilaabanayso maalinka ugu horreeya la furo waxaan furi karnaa doodaha ah ciidankan hadda la sheegaayo haddii shaki laga qabo in la xaqiijiyo guddiga amniga iyo guddiga difaaca ee tegey meesha raboorkii ay ka soo qoreen inay golaha la wadaagaan dibeedaan ka samaynaa annaga waxaan leenahay si dimuqraadiyada un wada hadalno dibeedaan ka samaynaynaa haddii marka ciidamadan wax ka qaldan yihiin markaasaa la dhihi karaa ciidamadan waxbaa ka qaldanay hala saxo laakiin haddayna ka qaldanayn ciidan boolis Soomaaliyeed way walaalkay wuxuu leeyahay waana la qabsaday aniga in jaamac yimaado in faarax yimaado oo boolis ah aniga waxaa baarlamaankan ka mid ahay muddo dheer marar badanaa waxaan hubaa taliyaasha booliska la bedelay anoo jooga iyadoo xiisadi jirin general John joogi jiray waa la bedelay general Hebel joogi jiray waa la bedelay general Hebel joogi jiray qodobkaas waa ka bixi Cabdi Xakiin rabayo Cabdi Xakiin ciidamadan markii hore baarlamaanka la arkeen baarlamaanka ciidanka markii la keenay ma golaha xukuumadda iyo ciidankan iyo booliska keenay tababaran mise baarlamaanka awalka hore looga fasax qaatay cid ay keenayeen baarlamaanka wuxuu leeyahay horta hab dhowr uu leeyahay qaybuu leeyahay baarlamaanka shaqeeya xogayaha iyo tiimka hoos yimaadahay maamulka baarlamaanka ka shaqeeyaan guddiga joogtadaahi waa ajandaha iyo shaqada de gudoomiyii mid kamid ah gudoomiyaashii guddigaana la jooga shaqo gaar ay leeyihiin guddoonku shaqo gaar ay leeyihiin hab dhowrka waxay leeyihiin xagga amniga waxa ku saabsan shaqadiisa iyo maamulka xagga baarlamaanka dhexdiisa shaqadiisa habka uu habsamida u soconaya iyaga mas'uulka hab dhowrkii anagu aan lahayn oo amnigeena mas'uuliyadda koobaad ka lahaa oo tababar haddii loo dirayo iyo haddii askari la bedelayo iyo haddii shaqo laga qabanayo ciidamada noo jooga aan lagala xiriirayay ayagoon wax ogaala u lahayn oo waxba ka ogaan ayaa horta la bedelay ciidamada
hadda waxaan rabaa waxa la isku haystaa wax weeyaan may kumay lahayn wax shaqaa kumay lahayn iyagoon ogeyn baa la bedelay boqol habeen madow baa la qasay loo keeni karaa ma ciidanka baarlamaanku ma qalca askariya oo difaac aan dhamaysto aan ogolaw aan dhamaysto meeshani ma aha tukna askariya oo difaac looga jiro ma aha meel maxaa la yiraahdaa xuduudka looga jiro ma aha waa golaha shacabkana ciidan ilaaliya oo amnigiisa loogu kalsoon yahay oo ammaankiisa sugo oo si gaar ah u tababaran oo xildhibaanada iyo hablo dhaqankooda yaqaanaa joogay meeshii marka waxaan rabaa amarka baarlamaanka ka qaadanaya booliska keenay laakiin baarlamaanka ka amar qaataa hadday baarlamaanku ciidankan cusub laygama bedelay hadduu yara waa loo dhaafaya leanna baarlamaanka loo tababaro waxayaan rabaa inaan ku daro saaxiibaday waxaan rabaa 120 askari ee hore u joogtay dhib kumaynan qabin annagoo isla wada joogno sida hadda uu sheegay dee waxba gaar ah oo noo sameynayeen annaga isaguna uu ogyahay annaguna waan ognahay 120kii in loo daayo maxaad uga cararaysaa oo kuwa cusub habeen madow la keenay adigu raadsanaysaa ma ogaan karaa sababta aad u raadsanayso kuwa cusub haddaadan cayaar maxaa habeen loo tumaa baa la yidhi haddaana wax ku hada shay horta waxba yaanan ku dheeraan doodan askarta la bedelay waa mas'alo aad u sahlan yaanan muxuu ahaa faraha la gelin shu'uunta amniga baarlamaanka walaalkay xildhibaanka wuxuu ka dhawaajiyey habdhoorayaasha ayaa ku shuqul leh dhowr mar ku soo celceliyey meeshaas waxaa ka muuqata xoogo inuusan wax badan fahamkaas uusan faham fiican ahayn habdhoorayaasha haddaanan khaldaneen shaqadooda waxaa tilmaamay qodobka 10aad ee xeerrasaadka absolute meel ay ka soo galaysa inay amni ku shuqulayeen lama arko shaqadooda waxa weeye habdhoorahoo dhanba waxaa loo asaasay xildhibaanadu markay buuqayaan intii dad kale fariisa dhihi lahayn in xildhibaan kale fariisa yiraahdo shaqo kale ay leeyihin lama arko amnina kuma shuqul laha waa doodan siyaasadeed ee ummadda Soomaaliyeed lagu maran habaabinayo masaladan oo dhan waa mas'alo raqiis oo sahlan oo aad u sahlan amnigan anagu mas'uul kama nihin mas'uul baan halka yahay booliiska Soomaaliyeed mas'uulka xogtay haayeen waxa ku bedeleen ma naqaan ma waxba la abaabulo oo nadameeyo ma naqaan inaan niraano anagu dadkaas noo keeno wax nala gudboon ma waqtiga la bedelayo iyo waqtiga la waxaynayo amnigu suuq ma aha laga debate garayo mana haboon inta waa ka baxayna waxaan ka rabaa qodobkaas halka aan ku joojino labada dhinac waxaan rabaa arintani hadda socota madaxweynaha waddanku madaxweyne uu leeyahay madaxweynaha Soomaaliyana markii arintan oo kale ay dhacdo inuu soo dhex galo oo uu ka hadlo ayuu leeyahay sida muuqata ilaa haddana madaxweynaha hadal oo ka soo baxay ma arag ma waxaa la aaminsan yahay in madaxweynaha iyo xukuumadda iyo kulli ay isku dhinac ka yihiin arrintaano isku mowqif ka yihiin mooshinkan ka dhanka Jawaari mise arrin kala jirta aye walaal waxa socda waa mu'amarad ka dhana golaha shacabka ee Soomaaliya mu'amarada madaxweynuhu ka hadlaabay ahayd xukuumadda ra'iisul wasaaraha isaga magacaabay anaguna waan ansixinay isagu waa madaxii qaranka Soomaaliyeed waa aabihii hay'adaha kala gedisan Soomaaliyeed madaxweynuhu waxa muuqata inaan mas'uuliyadiisa qaadan xilligan madaxweynaha waxa muuqata inuu ka aamusay wasaaradda difaaca iyo taliska ciidanka meelaha uu ku maqan yahay oo aanu arkin dalkan wax ka jiraan iyadoo duulaan lagu qaaday hay'adii ugu sareysay sharci dejinta dalka Soomaaliyeed waxaan u arkaa anigu aamusnaanta madaxweynaha waxaan u fasiranayaa inay tahay raalli ahaansho inuu qayb ka yahay hawsha socota aniga horta ayaan dara way mugtahay haddaan madaxdii dalka dhan wada eedeyno oo kulli aan ilaahno mu'aamaraday ka shaqeynayaan ama hadda waxaan ogahay xildhibaanada majority-goodu waxay aaminsan yihiin baarlamaankan aragtiyo xildhibaano ay ku kala duwan yihiin mooshin la keenay baarlamaanka shaqadiisa mooshin way mooshinaa la keenaa dibeeda laga galaa madaxweyne meeluu ka soo galo ma laha qodob 92 dastuurka mooshinada meeluu ka soo galo iyo inuu wax kala yiraahdo labada garo mooshin ka doodis anigu ma aqaan dastuurka meel ka qoranta dastuurkii waa yaala meelahan u yaala hay akhri meeluu ka soo galo ma laha waniho aflagaadada dadka ka daa fiiri haddaan TV-ga dadka rabto inaa ku caysan rabto fiiri aadu hadaa rabto dadka inaa aflagaadeyso xildhibaan saas kuma ahaanaysid waxa weeye baarlamaankan baarlamaan xor way niyo xildhibaano xoraan nahay
حسن فيري علي فيري ماي عند ميستو ماي عند جيستو أفلقادي ساني مو جوابايو أنا ها gabar xildhibaana baa waxaan ka maqlayay oo idaacadaha ka hadlaysa madaxweynaha anagoo haweena u tagnay leh waxaana dhahnay madaxweyne arrintaa ka hadal صح ilaa haddana madaxweynaha safarkii uu dooxa ku aaday xitaa uu ka baaqay صح xiisadan taagan awgeed صح marka miyaysan ku lahayn anaga ma hubno ma hubno maya xasan maya anda mesto xasan anda mesto fiiri mogtahay assumption markaa samayso hadday if saan ay ahaan lahayd madaxweynaha inuu uga baaqday safarkan arrintan meel ku qoran tahay male anigana ma ogi adigana ma ogi haddaa intees ka mala awaalno arabti inaan kugu raacno sax ma ahan tan kale oo ah gabdho waa u tageen madaxweynaha waxaa shaqadiisa ahayn haddii loogu tago wuxuu leeyahay walaalayaal waxaan wax baan rabaa oo idinka iskale aniga wuxuu yidhi gabdhaha ku yidhi ma aqaan laakiin hadduu ka aamusay ama hadduu yidhi shaqadiina qabsada madaxweynaha intee ka soo gala intee ka soo isma haystaan isma haystaan niyo isma haystaan aragti kale oo adiga assumption kale oo aan jirin oo samaynaysa way isma haystaan 107 xildhibaan oo xildhibaanada baarlamaanka kamid ah mooshin ka keenay guddoonkoodii u arkeen fiiri waxyaabaha ku haysana waxaa kamid ah maamulka had dadkan ay ka hadlayaan baarlamaanka maamulkiisa waxaa haya dastuurka uu ku qoran yahay guddiga adeega baarlamaanka wax la yiraahdo dad shibila loogu talagalay inay kamid noqdaan dad aqoon-yahano oo civil society ilaa keen inay kamid noqdaan wuxuu hadda ayaga sheegay shaqadii guddiga adeega baarlamaanka waxaa haysta jawaari iyo habdhowrayaal niman oo hadda ay sheegayeen oo ku tilmaamay shaqadooda ahayn ka shaqeynayaan oo aan ku qornayn qodobka 10aad ee xoreysaadka waxay ahayd ku haysano shuruucda uu ku tuntay ka mid tahay marka madaxweynena meel uu ka soo gala malahan dooda wasaarana waa bas hay cabdixakiin horta arrinta ku saabsan madaxweynaha hay-adaha dawladda fulinta iyo sharci dejinta iyo baarlamaanka madaxweynaha wax qofka isku xiro isku haya mas-uuliyadda guud ee qaranka qofka ay ku dhacaysana isaga wey aniga aragtidayda markii xukuumaddu ay faragelin intaan le ku samaynayso mu'asasad ka mid ah kuwii dawladda waddanka horta dee guddoonka baarlamaanka haddaayta guddoomiye cabdullaahi baa wuxuu yidhi xildhibaanka wuxuu yidhi ma aha jago weyn ma aha ama hawl weyn oo siyaasadda saameyn kula ma aha guddoomiyaha baarlamaanka in la bedela laakiin aniga waxaan u arkaa dee waddankani waa baarlamaani waaye maadaama uu sidaa yahay baarlamaanka wuxuu yahay hadda waddanka ugu sarreysa iyadaa ah tiirka ugu muhiimsan ee waddanka isku haysa haddii baarlamaanka uu dhaawac gaaro hay-adaha dalka oo dhan dhaawacaas gaaray marka dee maadaama xukuumadda culays intaan la eg ay ku haysa baarlamaankii maadaama ay ku dagaalka intaan la eg ay kula jiraan oo xukuumaddii oo aan kala harin oo shaqadan ay sidan uga shaqaynayso waxaan u malaynayaa dee uma baahna maanta anigu inaan fasiro shaqada ka socota xafiisyada dawladda ee ku saabsan baarlamaanka iyo fargelinta lagu hayo inaan anigu fasiro uma baahna I don't believe na hadda in odayaasha khiyaarta saaxiibadaya shacabka Soomaaliyeed maanta dhageysanaya uu ka runsanayo xukuumaddu faragelin kuma hayso ama taraf kama yahay qadiyada socota dadka Soomaaliyeed waa mujtamac afka ka hadla waa mujtamac warku si fudud isu gaarsiiya way og yihiin xaqiiqada jirta ee shaarica taala way la socdaan taa marka inta uga soo tago qodobka hadda uu ku dambeeyay oo uu ka hadlayo uu dhahay madaxweynuhu marka inuu soo farageliyo oo uu dowr ku yeesho oo uu xukuumadda at least ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabay khadkiisa inuu joojiyo oo yiraahdo hawshan aad ka shaqeynaysaa hawshaadi ma waajib saaran inay tahay aaminsanahay lagana rabo shaqo ay tahay laga rabo inuu qabto ay tahay midda markii laga soo tago qodobka ku saabsan guddiga adeega baarlamaanka ee uu hadda xildhibaanku ka hadlayo ee aan arkay inay ku qoran tahay qodobada jawaari lagu soo eedeeyay guddi horta jawaari guddiga waxa weeyaan waa guddi ka dhismaya labada golo ka dhismaya labada aqal oo ka dhismaya golaha shacabka iyo aqalka sare oo ka dhismaya xubnihiisa iyo mujtamaca kale sida uu sheegay banaanka dadka imaanaya waxaad ogaataa guddiga laftirkiisa waxa madax u ah sida uu sharcigu qeexayo jawaari baa madax u ah marka guddi dhismaya oo odagu madax u yahay oo asagu mas'uul yahay oo guddiga uu ka hadlayo oo uu leeyahay marka guddiga lagu dhaliilayo waa guddi oo asagu ay tahay inuu jeergareeyo waa guddi laba aqal ka dhismayo asaga kaliya mas'uuliyad ay saarnay damaya guddiga mooshinka lagu soo calaamadiyaan ka hadlaya guddiga sharciga soo ma dhigayo hadiiba guddoomiyaha baarlamaanka mooshin laga keeno
mooshinna uu ka yahay maya qodobada mooshinka lagu soo qoray bay ku jirtaa guddigaas uu dhisi waaye guddiga lagu eedeynayahay marka waa guddi labadaa aqal inaan mooshinkan laga fiirsanaan ku tusaya oo waxa ku qoran uu la iska qoray waa guddi labada aqal inay labada gole inay golaha shacabka labadiis iyo aqalka sare inay wada dhisaan ay tahay waana guddi uu jaargarayn doono markuu dhismo isagu madax u yahay wey sabab uga cararaa marka maba jirtaba dhismihiisa xasan waa mahadsan tahay horta su-aal fiican na weydiisay runtii aada wanaagsan su-aasha madaxweynuhu muxuu usoo faragelin waayey arrintan waa su-aal wanaagsan inaan meelo kale aadno oo mataqaana guddiye iyo waxaas aadna iyadoo su-aashaasi taallo runtii waa laga fiican yahay waxaa fiican si waktigaa un beeqaansanaa in su-aalaha la abaaro oo ummaddu ay faa'iidayso madaxweynaha shaqadiisa ma aynu soo farageliyo arrintan waxay u taallaa xildhibaanada inay hoggaankooda ay doortaan ama kalsoonida ay kala noqdaan wax madaxweynaha u yaalla maaha hadday saamayn lahayd arrintan yacni amniga guud ee qaranka ama dhaqaalaha qaranka ay saamayn lahayd wuu fiiri lahaa iska ilow xitaa in mataqaana xukuumadaa ku jirta iyo warkaasoo dhan meel iska dhig waa iska warka mataqaana fadhi ku diririyadu waa yani xukuumadaa ku jirto runtii waa fadhi ku dirir 107 xildhibaan in ay saxiixaan dadku xoolo maaha waa mas-uuliyad aada weyn 107 xildhibaan ma ikaadi wax yar anaa hadalkaas 107 waxbaa ka noqdaa layiri laakiin 107 horta ma saxiixda haba ka noqdaan 107 xildhibaan intay shireen yiraahdaan khald isku raacaan yani caqligeena ka weyn 107 xildhibaan in xukuumaddu soo adeegsatay ee barlamaankooda ay u dirto kan yeel tirada kaasi waa caqliga ka weyn يعني waa xiisad siyaasadeed oo la abuurayo magaca sumcadda barlamaanka lagu dilaayo annaga hadda meesha fadhinaa ka qayb galayna inaan dilno maxaa yeelay waxaan leenahay xukuumadda wixii haleynayso xukuumad annagu xoolaana annaga waa barlamaankeenna waa guddoomiyaheena markaan rabnaan qaadayna markaan rabnaan fariisinayna dad la diro waa ka weynahay laakiin waxaa xaqiiqaha aniga aan ogahay oo aanan qofna yani ka wareysanayn inay jiraan xildhibaano kooban ee rajiimka hore ka tirsan nimankii damal jadiidka la dhihi jiray ee damacsan xukuumaddan maalin inaysan hore u socon madaxweynahooda wax yaraan dhaho wax yaraan dhaho wasiirka maaliyadda wax yaraan dhaho naan dhamaystira kadib weydii su-aashaas madaxweynahoodii oo tuuto gashtay oo xero u guuray militariga dhex jeeftay in la furfuro oo saas loo waxeeyo la cambaareeyo oo dowladnimadu shaqayn weyso oo maanta o dhan saas layska wado damiir xumo way waa dadkii ummadda Soomaaliyeed barlamaankan asigoo matala ummadda Soomaaliyeed ay yiraahdeen war naga fariista ma harin hadda odaygii barlamaankay qaateen odaygii ay rabaan hadduu ceeboobana waa okay hadduu barlamaanku ceeboobana iyagu way u fiican tahay maxaa yeelay waa barlamaankii yiri warnimada fariista waxa runtii waddanka khalkhalinaayo waa raggii xasan sheekh xalay dad u soo wacay xildhibaanada telefonku ku dhagay waa waxaya kan yeela kan waxeeya kan yeela intaas daldalmay waa ninkii waddanka dadka la hadlaan arkay aniga on la sheekaystay iyo wuxuu ka hadlaya la sheegay barnaamijka laga dhex sheegay fiiri 9 bilood mushaar la qaadan ayuu ka tegay meesha falxumadaas uga tegay 1 bil mushaar weli oo baaqatay lama sheegin raggii oo tirsan 12 waa naqana saas dadku wareerinayaan warayga iskaga dibadayeen inay ceebna soo istaajiyaan iyo falxumada waxaan rabaa shirkii shalamaan daraad ka dhacay oo anigu aan joogay anigu waa joogay wasiirada aan ku arkay wasiirka maaliyadda ka mid wasiirkii dhalinyarada isboortiga ka mid xildhibaan ha ahaada laakiin iyagoo xildhibaan ah haddana shaqo ka weyn miyaysan u oolin midaan ay uga qaybgalayaan shaqada ka weyn taasoo u ooli karta maxay tahay waa xildhibaan guddoomiyahoodii baa la haystaa inay yani ka weyna yeelan karaan maxay tahay waya waa maasantaa laakiin anagu waxaanan ogeyn telefishin ahaan Soomaali Cable meel xasan sheekh madaxweyne hore uu ku soo wactamay anaa og oo la sheekaystay wuxuu ku hadlayna ii sheegeen waya bismillahi rahmaani rahiim aad baan uga xumahay dad aan doodayna ugula jirin oo inaga maqan horta inaynu halkan ka weerarno xildhibaan goodax waxaad moodaa weli inuu dood kula jiro xasan sheekh iyo tiimkiisii doodaasi weli in waxaad moodaa inuu mucaaradkii yahay laakiinse weli ma qirsana in farmaajo dalkan ka talinayo
in mas'uuliyadda farmaajo xasan cali khayre saaran tahay maanta wax samaynayaana inaanay ahayn madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu yahay xasan cali khayre iyo muxuu ahaa maamulka farmaajo ay ka hoos dhacayaan waxa dhacaya maanta waxa weeye walaal waxyaalo waaweyn baa dhacay intii xasan sheekh maxamuud dalka joogay ee uu ka talinayay inta al-shabaab ka dishay Soomaaliya waxa ka badan inta farmaajo inta joogay ay dishay maalin kaliya ayaa 600 oo Soomaaliyeed wax ka badan dhintay waxaan ku sheegaya waxaan sheegaya waxa weeye waxaan sheegaya inaad kuwan la xisaabtamaya jooga kuwan yaanu hilmaamayna niman tagay oo wixii ay lahaayeen la tagay yaanu ka daba tagin su-aashaadana soo noqonaya waxa weeye niyo baarlamaankan maanta mooshin baa hor yaalla mooshinka anigu mid baan soo jeedinaya tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum ma leen saaxiibaday waxa weeye inaad meedaanka kaaleya labadiina boqol ee xildhibaan la kaaleya si jawi caafimaad qabto oo ilbaxnimo ka muuqataan codayno sanaaduuq aan dhigno waxba lugta ku marinina muxuu ahaa maamulka jira maanta iyo xukuumadda jirta lugta ku marinina iyaga waxaan aaminsanahay in ay u adeegayaan afkaar iyo istiraatiijiyad aan garanahayn oo ay kuuli ka yihiin oo qarsoon ayaa jira inaadeena waxa duulimaad lagu yahay muassasaadkii Soomaalida waxa duulimaad lagu yahay in suldada oo dhan iyo powerka oo dhan gacanta ay ku dhigaan dad gaari taasaan ka soo jeednaa istibdaad iyo dictatorship samaysnaya laga hadlo waa kaynaadeer waxaan rabaa su'aal kale inuu gudbo iyadoo DP World shirkadan la yiraahdo oo Berbere iyo Boosaaso meelahaas oo dhan ayaa horta waxa ku soo iyo arrintan baa isku soo aad maadaama baarlamaanka Soomaaliya oo go'aan ka qaatay DP World in wadanka laga mamnuuco marka wax luga miyay isku leeyihiin arrintan iyo arrinta DP World hal meel lug isaga leeyihiin horta lug iskuma lahan oo dadku siday u faafinayaan u leeyihiin jawaari waxa loola dagaalamay mowqifkan annaga mooshinkeena mowqifkan qabsan aaminsaneyn jawaarina waxyaabaha aan kula dagaalno mooshinka uga keenaa waxa kamid ahayd waagi Berbere mooshinkeeda aan keenay inuu hoos geliyay oo uu diiday in baarlamaanka la keeno oo uu yiri warqadan waxaan u diray hay'adda fulinta asal raba inuu ka soo celiyo annaga waxaan rabnaa doodii inay noo furanto madaxweynuhu waa ka soo jawaabay doodii la furo mogtahay horta DP World asaga islaha isku furo maadaama waxyaabihii lagu soo eedeynayo oo mooshinka looga keenay ay kamid ahayd baarlamaankan si sharaf loo waasixiyay oo majority leh oo isku wada raacsan yahay oo marka mooshinka iyo waqtiga waa isku soo aadeen asaana ka shaqeeyo isku aadiyay laakiin asaga wuxuu ka raadinayay inuu ku badbaado hadii tan ay timaado inuu dad badan oo mooshinka oo asaga dhinaciisa soo mara uu helo way hay Cabdi Xakiin maxay luga ku leedahay arrintan والله أنا وده DP World يو علاقة موضوع اسمه حري كرا هذا مالي سجحني شخصيا ما قرنايه وحنا أوجينا كما حضو أما أنا أقولي أنا مستمتع جامع DP World هو حرير مالي والله يعني وحنا أركا برلمان كالصوماليات شرعي كرامة له وكرامة ومد الصوماليات سوي عليه باسكري هدي أن جواري تهال لقودي لهين ما قررنا يود علاقة كلي خد حسن. واي عبد الله أرتا واحد نحيا مجرى حقيقي واحد نحيا مجرى موجينك وقته باللودي سوايه هنا وعده سواها ضدكي موجينك صحيح لا وحي كلو حلبان والباقي مسيا ما وحن كعدلين وحن فردين هو موجينك كما دح موقته يعني ما تقعنا إن codayntii doraad dhacday daraadeed ayaa ninkan gurideena ka muuqan marka xiriir kama dhaxeeyo way aad ma santahay waxaan rabaa su'aasha kale aan gudbay waxay tahay hadda al-amuum waxba dhacay waxaan la isku raacsan yahay in mooshinkan baarlamaanka la geeyo la codeeyo la doodo laakiin goobtii ay ka dhacayso ma la isku raacsan yahay هاي أرت برلمان كلها شعب ماله كشقي ولاي ماشى وكشقي عيدا ما جوجا أنا هاي عيدا ما لو كل سونيا هاد ولو أمسين هاي إن برلمان كعيدا ولها سبب لوجا قاعدة بأجر عيدا كان هران وقصوا هذا الناي marka inna waxaan u aragnaa horta marka koowaad ciidanka in meesha laga qaado oo ciidanka rasmiga ah baarlamaanka ka shaqeynaya uu tababaraa in la keeno hadii laga qaadan waayo de goob loo sameeyahay ma noqonayso goobaan maamulkii iyo gudoonkii baarlamaanka iyo sharciyadii baarlamaanka ciidan aynan ogeyn lagu qabsaday habeen madow oo cidda gadaal ka riixaysay danta laga leeyahay midna aan la garanaynin goob inta lagu shiray kalsooni lagu sameyn karo oo doorasho sax ah ku dhac
inuu ciidamada booliska ay dhexda uga jiraan mar walba dhex joogaan laakiin saameyn bay leeyihiin waa cidda amniga ilaalinaysa waa cidda albaabka joogta waa cidda xildhibaanka soo galaysa soo control ciidanka booliska ma tuhmayno laakiin at least ciidankan ciidankii baarlamaanka ka shaqeey jiray oo joogi jiray ma aha marka kalsooni lagu ma qabi karo aniga hadalkayga waxaan ku soo aruurinayaa waxaan leeyahay saaxiibadii horta marka koowaad maadaama ay yiraahdeen 200 oo xildhibaan iyo waa aqaliya kuwa jawaari la jooga ay leeyihiin waan ku faraxsanahay de aqaliyanimada laftirkeedaan codkeena ku hubinaynaa isu kaana keena baarlamaankan awoodda lagu qabsaday ha laga wareejiyo xukuumadda adinka saaxiib leeyahay la hadla ciidankeeda inay qaadato xurriyad ha la bixiyo ma aaminsani inay hadda diyaar u yihiin baarlamaankan in la kala qaybiyaa la rabaa in laba laga dhigaa la rabaa shaqadiisa inuusan qabsanin la rabaa mar walba inuu mashruuc jiis inuu ahaadaa la rabaa baarlamaanka marka ma aaminsani inay xukuumaddu diyaar u tahay laakiin saaxiibadeen waa mustaqbalkoodii isagaa baarlamaanka ka tirsan sidaan uga tirsan oo kaleeto mu'assasa ay tahay inaan wada ilaashino jiritaankeeda waaye xukuumadda culays ku saara inay culayska ka qaada baarlamaanka si aan u shirno si jawaari mooshinkiisa loogu doodo mooshin aan u arko inuusan sharci ahayn ayaan aqbalay oon aqbalnay in la keeno baarlamaanka hortiisa marka hal yimaadeen laakiin de kalsoonida ay banaanka ku qabaan iyo gacantaaga dastuurka xoogga lagu raadinayo lama keeni kare dadkan laaluushka iyo rayn lagu wada ma socon kartay xal la keeno baarlamaanka haddii ay jawaari iyo xildhibaanada asaga la socda oo macnaha difaacaya haddii ay go'aansadaan in aanay tegin mooshinkaasi ilaa ciidamadan laga bixiyo oo ciidamada hore la soo celiyo ma u malaynaysaa in ay dhici karto doorashadu baalkii codayntu inay dhici karto maya absolutely ma dhacayso hadday imaan waayaan ma dhacayso doorashadii ma dhacayso ma la aqbalaya in ciidamada laga qaado meesha horta dee su-aashaas ninkaa weydiin lahayd aniga ma ahan ciidamadan hadda walaalqaybaad ku leedahay adigo qaybtaad ku leedahay waxay tahay ninka codayn doonaa tahay haddii arrintaasu ay timaado maxaa la yeelaya waa ku idhi waxaan ku idhi mogtahay horta shartan yaa soo sheegay mogta waa inaan isweydiinaa mogtahay shar hadda sharta uu sheegayo ciidamadan inay meesha joogaan shar waaye yaa soo sheegay walaalahay waxay yidhaahdeen guddiga amniga iyo waxay yidhaahdeen guddiga difaaca soo sheegay Soomaaliyeed laakiin ciidankii baarlamaanka ma ku kalsoonina tiri fiiri tuuna ka qabtaa ma ku kalsooni xaaladda lagu keenay baan xaalad sax ahayn maya aan dhameeyo abxaki ida walaalahay maya shar waaye ma dhihin laakiin maya dareenan ka qabaatiri ma ku kalsooniyaa tiri yaa soo sheegay inay dareen laga qabo anigaba hadda ma ogi ciidamadan waxa ay yihiin ma ogin aniga waxa kaliya ogahay waxaan ogahay adiga ama ogow ama ha ogaan laakiin waxa meesha yaala oo gudoomiye jawaarina oo afkiisa ka yiri asaguna afkiisa ka yiri xildhibaanaduna ay leeyihiin baarlamaankii ciidamo xukuumaddu ay keentay oo lagula wareega ayaa meesha jooga la hadii marka ay timaado in la yiraahdo hal la qabto codayntii ya maxaa la yeelaya sidee codanta loo qabanaya hadda xasan fiiri laba mid ay sheeka qadamin waxaan nahay saddex hay'adood oo kala madax banaan hay'adda fulinta shaqooyinkeeda qaarkood maxaa la yiraahdaa baarlamaanka shaqo kuma lahan waa u yeeri karnaa sax waa dhihi karnaa de wada loo maraa jirta laakiin taliyaha booliska iyo wasiir dowlaha amniga oo ahaa markaas kusimaha wasiirka amniga yaa ka jawaabay arrintaa idaacadda ka sheegeen waxay yiraahdeen waa shaqadanadii caadiga ahayd askari waa bedelnaa hargeysa u bedelayna haddaan rabno intaa u bedelayna shaqa askari lagu yaqaan anna askareeda ah abahay maalinkii la bedelay lagama sugayna maalinkaas xagaamiya mise guwaay ma la dhahin ciidanka wuxuu leeyahay qorshe howleed wuu bedelay haddii ay dareen ka qabaan walaalahay aan midaan qiraaya hadday dareen ka qabaan oo leeyihiin ciidanka shaki aan nooga galay xagee ka yimid shakiga in la isweydiiyo waaye walaalahay waxay ka shaqeeyeen guddiga amniga iyo guddiga difaaca yiri baarlamaanka furanayna guddiga amniga difaaca ha noo sheegaan ha naga dhaadhiciyaan hadday yihiin niman isku kay qarxinaya annagaba ma rabayno laakiin hadday yihiin booliska Soomaaliyeed suu isbaasaw sheegayo oo ku kalsoon yahay booliska Soomaaliyeed oo xalaasha oo loogu talagalay anigu waxaan joogay taliyaal tiro badan oo la bedelay anoo halka fadhiyo laba taliyaal la bedelay waligeena xasaasiyad kama adigu waxaad aaminsan tahay in kor iyo hoos codayntu baarlamaanka ka dhacdo iyadoo ciidamadu joogaan waxa weeye waxa meesha yaalla waxaan u aragnaa in golihii xaruntii golaha shacabka Soomaaliyeed maanta ay tahay meel ciidankiina ilaalin jiray loo tababaray booliska xirfadda gaarka ah garanayay qaabka baarlamaanka loo ilaaliyo in meesha laga qaaday annagu dareen waxaanu qabnaa dhinaca amniga haddii la rabo in codayn ay dhacdo booliskii ilaalin jiray meeshan 120ka ah la soo celiyo waa in la ilaaliyo security-ga iyo amniga xildhibaanada iyo noloshooda waxaanu aaminsanahay haddii aysan taasi dhacahayn
goob kale oo aan halkan ahayn ay ka dhacdo oo ummadda islaamka ay isugu timaado oo kormeerayaal caalami yimaadaan oo sanaaduuq cad la dhigo oo la codeeyo haddii jawaari anigu jawaari shaksi ahaan ma difaacayno horaan kuugu sheegay jawaari waana heli karaa waana ka bixi karaa daaqadda meeshan waxaan u aragnaa in ajendayaal ka waaweyn oo duulimaad lagu yahay mu'asasaadka ummadda soomaaliyeed baan aragnaa anagu taasaan ka hortegayn tanna waa dariiqii loo marayay ummadda soomaaliyeed way maqlaysaa waxaan ka codsanayaa in goob dhexdhexaada haddii baarlamaanka xaruntiisa ma diidanin ciidamadiina ilaalin jiray ee loo tababaray baarlamaanka loo tababaray lagu soo celiyo ammaanka ha la adkeeyo goob maalin cad ha la qabto codaynta jawaari taas waa wax simbala waaya waxaan kaa rabaa haddiiba 200 oo xildhibaan ku dhawaad ay haystaan xubnaha baarlamaanka ka soo horjeeda guddoomiyaha baarlamaanka hadday haystaan raalli ma ka noqonayaan inaan kalsooniyada qabteen 184 ka badan haysatiin raalli ma ka noqonaysiin shuruudaha ay sheeganayaan macnaha jawaari iyo inta ku codka ah ma yeelaysaan ilaan aqlabiyad ba haysataan horta waxaa fiican shuruudahan hadda waa iska doodan ku jirnaa iyadoo qoraala inay horta soo gudbiyaan fiican baarlamaankaana ka doodi doono oo yani go-aankeeda baarlamaanka ayaa yeelanaya marka laakiin waxaa nasiib daraa in xildhibaan soomaaliyeed uu yiraahdo ciidanka booliiska soomaaliyeed ee iwaardeynayo kuma kalsooni haddana waxaa nasiib daraa inuusan sheegaynin sababto ugu kalsooneyn oo uu siyaasadeeyo waa kow waxaa nasiib dare waktiga aan joogno oo aan kasoo gudubna carta imbegati iyo carta iyo wax mar hore laga soo tegay gaadana nawaardiyeynaysa marka hadlayno gaadana fiirsanayso waxaas marhaa laga soo tegay waxaan dooranay madaxweyne waxaan dooranay jawaari waxaan dooranay ku-xigeenkiisa waxaan maalin walbaan dooranaa nalooma yimaado annagaa kala baxno qaylana kama dhacdo waxa weeye waa siyaasad wey waa dad rabo baarlamaankan inay cambaareeyaan ceebeeyaan fadeexa waxeeyaan waa dad raba inaysan maalintay meesha ka tageen ilaa hadda aysan waxba kala socon saan lagu dhamaysto laakiin nasiib wanaag inta badan oo wanaagsan ayaa badan waa fansoma inta badan ayaa wanaagsan waxaa shaki ku jirin haddii guddoomiye jawaari uusan si kale wax u dhigin marka isaga laftirkiisa yiri meesha lagu doortay halay dhiga sanduuq afkiisa ahayd TV-gaan ka dhageysan laakiin rag kale hostage u haysto oo saa u haysto oo xandaab geliyay ayaa mar bakaar soo bixinay mar wuxuu ku leeyahay biliiskii baa xun mar wuxuu ku leeyahay meesh goobta xun mar wuxuu ku leeyahay gaalaha naloo keeno mar buu waxbay sheegay haddoosan guddoomiye jawaari uusan si kale u dhigin waxaa shaki iigu jiray in sanduuq meeshaas tagaayo in dood fiican ay dhacayso in cod aqliyadana odageena loo ritaar garayna uu ku nasarayo waayo waxaan rabaa su-aal kale inaan weydiiyo maadaama hadda doodan iyo arrimahan ay jiraan xal kale oo ah in waa la ogyahay mooshin in cod lagu kala baxo waa la ogyahay laakiin doodani maadaama ay soo baxday weliba ka duwan tahay sidii hore ay ka duwan tahay ma la heli karaa xalkaa ka duwan oo xildhibaanadu isugu yimaadiin oo ay ku wada hadlaan ma la heli karaa haye jaamac bismillahi raxmaan raxiim anigu uma arka xal kale meel dhexe oo la isugu yimaado kale inay jirto uma arko xalka waxaan u aragnaa mooshin baa la keenay waa la qabtay waa la ogolaaday waa lagu soconaya kama tanaasuleyno annaga mooshinka haysana inuu socdo waxa weeye qaabku u dhacayo in xeer hoosaadka golaha la ixtiraamo in dastuurka qaranka la ixtiraamo waxaan weydiin lahaa saaxiibada inay ogol yihiin tusaale ahaan in oon isla ogolaan in sanaadiiq meesha la dhigayo oo codayntu u dhacaysa qaab qarsoodiya waa arrinta ay ka ordayaan horta midaan kuu sheegaya goorta aan weydiino ma ogolyihin labada nin baa weydiinaya sida sharcigu dhigay xeer hoosaadka iyo dastuurkuba dhigay labada waxaan ogolahay in la codeeyo waxaan ogolahay sanduuqa uu sheegaya in lagu codeeyo sanduuqa ma ogasha waxaan ogolahay in baarlamaankeenii aan ku codeyno
waxaan ogolahay walaalaheen oo wada soconay inaan kala baxno cod ku kala baxno waxaan kaloo ogolahay oon rabo inaan shacabka Soomaaliya u cadeeyo horta jawaari haddii la mooshin laga keeno oo la yiri qodob xerosaadka dhahayo meel fariiso jawaari asagoo gudoomiye ahaa waxaa jeergareeyay muddo asagoo gudoomiye ahaa waxaa jeergareeyay maxaa la yiraahdaa mahad baarlamaanka horta ma ahan wasaaradda xirmaaya maaha wadooyin ma xirmaayaan jawaari intuu doodiisu ka dhamaanayso waa xildhibaan caadiya gadaal u fariisanaya muddo jeergareynaya hadduu mulugii xanuunsado maalinkaas waxaa imaanaya mahdaa jeergareynaya baarlamaanka wax iska bedelaya malaha niyo shaqada baarlamaanka si guud hadaa u sheegay waa shaqo aad u sahlan shaqo dhib badan oo sida oo daraamaha loo gelinayo maaha booliska banaanka naga joogaan mooshinka qoladii keensataa imaanaysa waa akrinayaan odayaal waxay ku soo yeelanayaan qolada ka soo horjeedana waa difaacayaan waxay sheegayaan abdi xakiino mar haddii boolisku ayna soo dhex gelaynin baarlamaanka oo aysan codayntii ka qayb qaadanaynin waxbana ka qayb qaadanayn banaankaas kore ay ka taagan yihiin oo waa maxaa walwalka la qabo sababta reasonka iyo walwalka waxa keenaya ku sheegay mooshinkan horta waa mooshin xukuumo sidiis waa mooshin tiimka xildhibaanada ah ee baarlamaanka ku jira ee wasiirada ah iyo xukuumadii ay gadaal ka taagan tahay wadawey waa mooshin wasiirka amnigu oo xildhibaan baarlamaanka ka tirsan uu yahay oo xukuumadda ka tirsan yani tusaale ahaan aniga ma dhahay hadda mooshinka saxiixay midna ma dhahay laakiin hay-adaha dawladda ee xukuumadii ay ugu horeyso ayaa mooshinkan ah dadka ka shaqeynay marka waxa keenaya in booliskii hore la bedelay mid cusub la keenay gacantiiba waxay ku aruursan yahay xukunkii cidda mooshinkii wada iyo cidda booliskii sultadii gacanta ku haysa hal jiha isla baarlamaan xor ah oo asagu xorriyad u leeyahay inuu niqaasho oo iisugade santuuq mar haddii la isla ogol yahay in lagu rido codka ma boolis baan ti yimaaday ayay santuuqii kala furayaan oo warqadihii meel kale ku riday annaga xildhibaanana waan iska warhaynaa shirarka la galaan ognahay xafiisyada meel walba shirar ka socda waan la soconaa saaxiibadeen hadda niqaashka iyo dooda ka dhex jirtaa waxa weeye waa in xeer hoosaadka la bedelo I don't know dastuurka inay arkeen iyo in kale ma kala aqaano laakiin in la bedelo si gacantaag loogu bedelo oo santuuqa laga dhaafo gacantaag waxa loogu bedelayaa laba sabab laga leeyahay waa midda koobaad xukuumadda laftirkeeda wasiirada saxiixay baan ku wada qanacsanayn waxaan ay saxiix ee qasab qaarkood ku saxiix waa midda labaad xildhibaano badan baa lagu soo qasbay wasiirkaagii baa ayaa xilka laga qaadaya ama kaad hebel baa xilka laga qaadaya haddii kala imaad oo meeshan sidaa ku jooga oo ay og yihiin ayaduna inay warkaas war jirayaan waa midda saddexaad qaar baa damac kaleeto iyo wax kaleeto la geliyay marka waxyaabahaas oo dhan waxaa fashilinaya in santuuq wax lagu rido maadaama ay taas fashilayso waxay saaxiibadan xooga saarayaan oo hadda ka shaqeynayaan waxa weeye in gacantaag loo bedelo gacantaag haddii loo bedelayo waa meel fawda ah yaa taagay yaa tiriyay jawigaasaa la rabaa in lagu abuuro marka jawi lagu kalsoonaan kara jawigaas ma namar halaw cabdullaahi gooda waxaa rabaa xildhibaan adoo mahadsan horta adinku ma wada haye horta xeer hoosaad iyo sharci midnaba looma bedelo si markaa loo isticmaalo waxaan rabaa inaan sameeyo marka haddaan bedelaya si aan u isticmaalo nidaamkaas ma jiro waa asxaabtan raba inay ummadda marin habaabiyaan nidaam dhici karaba ma ahanba in la bedelo xoogo waxaad moodaa ma raba inaan dhaho xildhibaanku garadkiisa yar laakiin sharciga maanta bedelaya saa hadda ugu dhaqmo yani ma jirto haddaad sharcigan bedeshid kuma dhaqmi kartid ilaa dhacdo yani munaasabad kale oo iyada lamid ah laakiin munaasabadaanan sharciga u bedelaya saan ugu dhaqmo horta nooc lagu shaqeeyo maaha ummadda soomaaliyeedna wax garad badanay leedahay waxaana wax la samaynayo maaha waa waxa la rabay in baarlamaanka lagu cambaareeyo xukuumadda lagu cambaareeyo oo fawdadan dad ay faa'iido u tahay dad ayay faa'iido u tahay maaha jawaari dad ay faa'iido u tahay marka horta taa waa laakiin su-aal wanaagsan aad na weydiisay waxaa nala aaday booliiskii iyo hawshiisa su-aashu waxaa weeye ayadoo sanduuqu iska imaan doona oo nidaamka yahay wax waan iyo wax wara iyo wax yani tanaasulida ama kana wax ma socdaan ama ma dhici karaan su-aal qurxaanad weydiisay lagama jawaabin waxa la aadaya meel kale wax badanaa socdo wayna og yihiin asxaabtaan waxa ay la wareersan yihiin oo ay la waadanayaanna waa intaas wax badanaa socdo wax badanoo qurxanaa socdo waxaana macquul ah
in caqliga uu shaqeeyo sida adiguba sida wanaagsan su-aasha ugu dhigta in caqligu shaqeeyo oo mataqaanaa odagaas aan nalka arbushin oday runtii sharaf iyo qadarin la wey laakiin xildhibaanaha barta keenay oo dhaliilay wakti loo baahnaa way jirtay wakti uu maxamed siyaad joogay oo wax walba kan hawsha uu si fiican qaban jirto way jirtay tan xirfad kale u baahan tahay Soomaaliya maanta in la samata bixiyo xirfad kale u baahan tahay marka haddii lagu dhaliilo yirtaa ma laha wax dhibaato ma laha odayna waa soo shaqeeyay bilado waaweyn aan siinaynaa bilado waaweyn aan la siinayaa waxaana loo samaynayaa mooshinka la laabanaya xalku mas'uulkana lagu qancinaya inuu isxasilo keewa aduu xal baa socdo kama hor dhacaayo laakiin xal baa socdo asxaabtan ku maqsuud ku ku faraxsaneen ayaa socdo wanaagsan marka waana imaan doontaa waqtigeeda hadii la gabayna barnaamijka adiko aad u maadsan laakiin waxaan rabaa hal daqiiqo kale inaan idin siiyo ummadda Soomaaliyeed waad ogtihiin xaalado badan baa jiray wadankii duulaan baa lagu yahay duulaanka lagu yahana waxaa ka mid ah in dekadihiisi hataa aad arkaysaan in dekadihi qaarkood in lala wareegayo iyadoon dawladdii Soomaaliya la marin waxaad arkaysaan in dawladaha dariska la mid ah in ay xataa meeshii dawladda lala hadli lahaa inay saamiga iyadu ay samaynayso waxaad ogtihiin in shirkadihii isgaarsiinta Soomaaliya in jubbooyinka oo dhan laga xaalufinayo oo haatan shirkadaha wadamo ajnabi shirkadahoodii in hadda in lagu isticmaalo la rabo oo ilaa intaas oo la gubay adiko inta ka duulaya maantana xaaladdu ay sidaa tahay miyay habboon tahay xasarada noocaan oo kala inay dhacdo haye jaama wallahi waa ayaan dadka xasarada siyaasiyeed ee talaka dhacaan iyadoo xaaladaad sheegtay aynu ku jirno laakiin se anagu maanan abuurin khiyaartana la fadhida ee xasaradan abuurtay khalkhalkan siyaasiga dalka gelisay waad weydiin doontaa anigu waxaan u arkaa way keeneen mooshinkaas inay ku dambeeyo codayn laakiin Soomaaliya mashaakil fara badan baa jira mashaakilka aad sheegtay tusaale ahaan dekadaha oo kale waxaa sababaya siyaasadda khaarijiga ee dalka oo dalkii aad moodo in jeebka loo geliyay dal kaliya khaliijka ka mid ah dowlad khaliijka ka mid ah oo aad maanta moodo jaamacadda dawlad carabiya oo Soomaaliya ay si gaar ah ugu amarku taagleen jirtay in Somaliland doodeeda kaga xoogantay maanta waxaana sababay dawladda waaweyn ee Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Masar iyo Bahrain iyo aad ogtahay siraaca ka socda iyo loolanka ka socda khaliij iyo badda cas in sida ay ula falgashay dawladeenu ayaa keentay fashal ku keenay dawladeenu way fashilantay taas ayaa keentay faragelinta berbera iyo wixii la halmaalay boosaaso iyo magaranaysa meelaha kale arrimo kale oo dhinaca amniga iyo dhibaatooyin dhinaca amniga iska jira marka anigu in la abuuro xasarad siyaasiya oo istiqraarkii siyaasiga dalka lagala dagaalamo nimanka mooshinka keenaya ee dawladdu dhabarka soo taabanayso ay ku adeegsanayso ee mu'assadii ugu weyneyd muxuuha dawladda Soomaaliyeed oo ah golaha shacabka Soomaaliyeed in loo adeegsay lagu dumiyo kuwaas baa mas'uuliyadda qaaday waayahay haye maxaad kala leedahay su'aashaas anigu waa koobay aniga warkaygu waa koobay annaga baarlamaanka sanadkan awal baarlamaanku waxaa la maqli jiray hay'adda fulintu duulaan ku yahay madaxweynuhu duulaan ku yahay xukuumaddu duulaan ku yahay shacabka Soomaaliyeed waxay nagu dhaliili jireen haddii taa duulaan lagu yeedo 6 biloodna waxaa laga hadli jiray xukuumaddii baa la dumiyey 6 bilood xukuumad kale sanada lumi jiray annaga hadda waxaan ka shaqeynaa annaga isa saxeen xukuumaddu inay shaqadeeda qabsato shaqaysataa laga rabaa wax annagu shaqo ku leenahay meel wasaaradda waxbarashada shaqadeeda inay qabsato baaqa u diraya haddii shacabka Soomaaliyeed ay shaki ka qabaan soo fiiriya wasaaradda waxbarashada waa shaqaysaa caafimaadka waan leenahay wasiirada shaqadiina guta oo ka shaqeeyay laakiin annagu baarlamaankan isa saxayna xasarad siyaasadeed ma ahan kan bawaad wateen hadda waxyaabo badan oo ka muhiimsan oo maanta baarlamaanka in la soo dhigana way jireen oo ka mid ahaa hadda Kenya xuduudii Soomaaliya way soo dhex gashay ilaa hadda wax mooshin ka keena ma ana arkin fiirima ama ka imaanay ma ana arkin waxyaabo badan oo muhiim ah ayaa jiray maanta in arintan la abuuro ama jawaar dhinaciisa ka ahaato ama dhinaca kale xukuumadda ka ahaato soo kama habooneen in wax badan laga hormariyo hadda ninkii waxaas oo mooshinadii la keenay ama arrimihii xuduudka balad xaaw wafdigii loo diraan kamid ahaa
waxyaabahaasoo dhan markii la keeno meeshii la keenayo haddaysan waxba ka soconayn ma waxaa leedahay ayadaa keligeed iswadayso mooshinka waxaaba laga keenayba waa ninkan inta mooshinee markii hadda oo aan jawaari meesha ka saarno dhulka laga soo miiska hoostiisa laga soo bixin doono shacabka soomaalidna waa yaabi doonaa xasano waan kugu casuumi doonaa aad u mahadsan yahay laakiin waxaa cajiiba shaqada hay-adaha dawladda de haddii sidan la isugu qaso dictoorku isugu qasay waan hubaa aqoon darro kama aha laakiin dee qasdan uu samaynaya waxaa wafdiga diray xuduudka aada baarlamaanka maahan waa xukuumaddaana laga rabaa inay warbixin keento la isugu kooban xildhibaanada deegaanka mahma hadday tahay wasiir baa hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha doctor ralla wasiirka arrimaha gudaha wafdiga hogaaminayay madaxweynaha ku noqon kartaa waa heli kartaa madaxweynaha aniga waxaan u raacay gobolada dhexe waa la soo laabtay laakiin macnaheedu ma aha wafdiga baarlamaanka ma uusan aadin shaqada meesha aadee waxay ahayd madaxweynaha iyo wafdi la socday marka walaalkay wuxuu la socday wasiirka arrimaha gudaha wafdiga watay isagaa shaqada soo qabtay waa shaqo xukuumadeed shaqo fulina anaga shaqadeena maba ahanba aslan officeed waa shaqadeena waana uu garanaya asaga taas waa mid marka laguma eedeyn kara jawaari wax miiska hoostiisa ugu jiro mawduucaas la xiriirana ma jirto midaas markii laga soo tago arrintan kale hadda adiga aad ka hadlayso aniga waxaan u arkaa baarlamaanka golaha shacabka muddadii uu soo jiray ayaa waxaa la lahaa mooshin oo xukuumadda ka wadaa xagguu ka keenay meelablay fadhiisteen mooshin bay qorayaan dee xukuumaddii markay weyse inaan markay daasho wax mooshin ka keenaya inaynan jirin xaqiiqsatay annaga naga keento marka waxaan u malaynayaa dee waxaa la rabaa ufuq siyaasadeed inaad leedahay qorshe aad u socotaa inuu jiro waxay rabtaa inuu meelaad u socotood garanaysa inay jirto istiraatiijiyadii khudo aad berri ka shaqaynaysaa inay jirto haddaad weyso oo wax kuu cad iyo meelaad u socoto aadan garanayn dee adaa isku soo laabanaysid marka xukuumadda annagaan ugu soo laabatay shaqada qaranka iyo mas-uuliyaadka aad ka hadlaysana xukuumadday saaranta iyadana laga rabaa waa maasanta horta waa su-aashaada way fiican tahay mooshinka ma aha wax khalkhalka ah waa marka la siyaasadeeyo waxaa aragtoo dhan laga dul sameeyey odaygii mooshinka laga keenay meel koox yar intay gashatay ee marba kaarkiisa iyo hadda maqaarkiisa inay safriyaan ay rabaan mataqaan meesha ay marayaan yacni dadaan dareen lahayn oo madaxweynahoodii uu dagaal iclaamiyey oo sida aad sheegtay xuduudkii meel walba laga soo gelayo oo sida aad sheegtay mataqaanaa shu-uno badan nagu furan yihiin oo madaxweynihii maanta ciidanka dhex jiifo ragga siyaasadeed mooshin yar ee guddoonkii baarlamaanka looga hadlaayo ma qofkaana na hogaamiyo qofkaan maku habboon yahay qofka yacni wax weyn ma ah dadka siyaasadeed cirka gaarsiiyey ummadda soomaaliyeed meel bay kaa soo wacayaan min australia ilaa canada way kusoo wacayaan war waxaan wadankii gadaal baa noo celinaysa yacni dhibaatada ay dadkaa abuureen dhowrka qof ee baarlamaanka dhex fadhiyo caqligaagaa diidayo marka mooshinka maaha waxa khalkhalka keenay waa siyaasiyiinta dhowrka ah ee qasaayo ee rabaan in dhibkii ay shalay geysteen lagu iloobo dhibkii shalay in lagu iloobo ayay mataqaanaa rabaan marka dhibku ma aha mooshinka waa siyaasiyiinta waa mahadsanta aad baan kulligan idinka mahad celinayaa barnaamijka falanqeynta siyaasadda oo aad igala soo qayb gasheen oo aad i ajiibteen adigoo ah xildhibaanadii baarlamaanka howlo badan aan ogahay inay idinku furan yihiin inaad maaragtay naga aqbashaan aad baan idinka mahad celinaynaa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxaa ka mid a xildhibaanada igala qayb galay barnaamijkan xildhibaan cabdullaahi goodax barre oo hore uu soo noqday wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dawladdii soomaaliya waxaa kaloo ka mid a xildhibaan jaamac maxamed askar oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxaa ka mid a xildhibaan doctor cabdi cali iyo xildhibaan cabdixakiin macalin axmed maalin runtii waxaan kaloo aada ugu mahad celinayaa dadweynaha soomaaliyeed ee su-aalaha badan facebooka iyo maaragtay twitterka noo soo dhigay oo runtii macnaha caawa fursad badan aanan u helin qaar inkastoon qaar weydiiyey haddana inta kale aanan fursad u helin oo su-aaluhu ay kumanaan kor u dhaafayeen ayaan ka xumahay insha allahu tacaala waxaan u mahad celinayaa farsamo yaqaan caylaawe iyo faarax u k farsamo yaqaanada telefishinka somali cable ee magaalada london cabdisamed maxamed yare iyo bashiir bocor waa u mahad celinayaa barnaamijkan daawadayaal waa barnaamij toddobaad walba maalinta talaadada ah habeenka arbacada soo gelay soo gala oo aad kala socon kartaan somali cable aniga iyo tiamkaygu dhammaanteen isku duubna waxaa idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat
كوا satellite dish xun oo ah darbaalo guriga ka